aan gelin laakiin dib aan u socolinay barnaamijkeeni baaritaanka bulshada barnaamijkan baaritaanka bulshada aalaab waxaan kusoo qaadanaa waxyaabaha baraha bulshada leesla maro oo aan isleenahay waa qodob muhiim ah oo dalkii dadka waxtaraya oon rabna aan ka hadalno caawa barnaamijkeena sida hore in kugu ballan qaadnaba caawa barnaamijkeenu waxaynu ku qaada dhigi doonaa nin runtii baraha bulshada aad iyo aad magaciisa loo hayay balse aan rabno in aynu magaciisa iyo siduu taariikhdiisa nololkiisa markhaatiga nool caawa inoo sharxo ninkaasi waa nin afraxaasla ah baraha bulshada lasoo dhigay nin dhalinyaro ah aqoon-yahana u muuqday runtii balse caawa annagu aqoonta aan u leenahay intaasoo keliya ha yeeshee markii aan samaynay baaritaan waxaanu soo ogaanay arrimo badan waxaan jecelahay dadkii goobjoog ka ahaa dhacdooyinkii oo markhaatiga oo arrintaas dambiyeedkaas lagu eedaanayo markhaatiga nool ayaan rabnaa caawa inaan insha allah marka u horreysa aan ku soo dhoweyno oo aan rabnaa barnaamijka inuu qayb ka noqdo oo aan leenahay oo ka mid ahaa dadkii goobjoogka ah dhacdooyinkii uu geystay markhaatiga nool ayaan markaan leenahay waa taas waxaan jecelahay bal marka u horreysa wariyahaas oo ah wariyaashii raadiyo muqdisho islaana shaqay jireen cabdisalaan axmed jimcaale inaan caawa barnaamijka marka u horreysa aan ku soo dhoweyno oo runtii suuro geliyey inuu warbixintan shacabka Soomaaliyeed iyo waxa inay wax ka jiraan inuu shacabka Soomaaliyeed la qaybsado waana wax muhiim ah waana wax wadanida iyo Soomaalinimadu ku haboon marka horeysa cabdisalaan ku soo dhawo Soomaali Wadani TV marka horeysa waa ku dhawahay diida cadde adiga iyo kaameramanada kula shaqeeya aadan ugu dhawaay waan ku maasantay Allah waa maasantahay cabdisalaan marka horeysa sida barnaamijka nooga aqbashay waxaan jeclaan lahayn maadaama ahayd farsamayaqaan ama wariyaasha raadiyo muqdisho ka howlgeli jiray bal war ka horeysa waxaan rabaa taariikhdan ninkan walaalkeena inaad nooga dhacdo adiga oo runtii xaqiiqda maraaya dhabta siduu waxay jiraan sidaas kula shaqay jirteen say taariikhdu sayd bal adiga bal bilow ilaa bal inaad nooga bilow insha allah harugal waa mahadsan tahay adiga iyo taxanayaasha ku taxan barnaamijkan Soomaali Wadani TV mar labaad iyo mar saddexaad waa salaamaya horta ninkan taakee waa nin 90kii markii dagaaladii sokeeyay waddanka dhacay 91dii ayuu mataqaanaa la socday jabhadihii meesha qabsaday sida aan la wada soconno waagaasi beelbeel ayay ahayd asaga beesha uu ka dhashay oo ah beel ka soo jeeda Cadaado iyo beel ka tirsan qoladan hotel weli iskale ayaa raadiyo muqdisho ku soo aaday ciidamadii markaas ukaadi waadoo mahadsan balukaadi waxaa tiri beesha beelaha si waadax u sheegno beesha murusle iyo beesha waxaad leedahay Saleymaan ayaa waxay ku soo aadeen qabsada raadiyo muqdisho jabhadii markay aayeen labadooda wada shaqayn lahaa ma dhankaasaa ka wada harugal marka waa sax saad u sheegtay labadaas beelood ayaa meesha qabsaday weliba labada beel ma wada dhigi karno waa ciidamo ka socda hotel weheliye iyo ciidamadaas ayaa meeshii qabtay markay meesha qabteen maxamed siyaad bare meesha waa isaga cararay asaga iyo shaqaalihii meesha joogay dhammaan ninkani wuxuu la socday marka asaga ciidamadaas kama uusan tirsaneen laakiin wuxuu la socday nin la yiraahdo uu soo magacaabay Cali Mahdi oo ahaa madaxweynaha ku meel gaarka 2 sano uu soo magacaabay oo liraa maxamed maxamuud gacma dheere oo ahaa wasiirka warfaafinta iyo wuxuu ahaa ilaaladiis qaaska ah okay waxaa tiri ilaaladiis qaaska ah iyo wuxuu ahaa maxamed maxamuud gacma dheere oo ahaa ninkii wasiirka warfaafinta loo magacaabay xilligii Cali Mahdi Soomaa saas aad ninkaas uu ahaa ilaaladiis ka tirsanaa ninkii markuu meeshaas ku soo galay asagoo tuuto wata qoray ka wato na soo galay kadib shaqaalihii magacadooda kala bartay reerahoodu kala barbartay meeshuu nala joogi jiray shaqaalaha waaga siraad muqdisho ka shaqeey jiray marka shaqaalaha ka shaqeynay wariyaasha ka shaqeynay waxaan rabnaa bad inaad wariyaasha Soomaaliyeed dhan may u dhamaayeen bal si fiican ugu dhaqee horta Soomaali ayay u dhamaayeen inta Soomaali ay ka koobanto dhan meesha joogtay wax wariye oo dakana qabina ma jirin rag oo daarooda joogay dad hawiyaa joogay dad raxweyna joogay dad diraa joogay kullu waa la joogay meesha marka inta Soomaali ay ka koobnaayeen shaqaalaha marka aan bisraax u hadlo oo aanan waxba aanan garin ninkan markuu meesha soo galay isla markii wuxuu ku dhex milmay shaqaalihii asagoo aad waagaas u daneynayay saxaafadda aad u jeclaa marka wuxuu dhigi jiray halkan wax lagu akhriyaa sidee wax loo akhriyaa aad u ahaa nin active oo dadka inuu dhex gala jecel
qorigiisa inuu wadan jiray qorigii kama reebanayn asagoo marka studio la soo geli jiray taasoo qorigiisa wato marka ninkii asiga markii dambe aqoon hor ma laha nin aqoon hor u lahaa nin dhisan miyuu ahaa mase nin iska wuxuu ahaa waardiye iska ah taariikh nololeed macnaha intaad ka taqaano ood meesha ka barat asiga cabdisalaan wallahi anaga asaga wuxuu noo sheegay anaga horuma aan aqoon wuxuu noo sheegay inuu ahaan jiray macallin BB ah xilligii dowladda gacaanka kadibna qorigaana qaato u dhahay qorigii markii aan qaatay beeshan hadda aan ka soo jeedo ayaan u dagaalamay marka wasiirka ayaan qaraabo hoosannahay wasiirka ayaan u ahaa ilaalo saasuu ninkaan nagu soo galay kadibna wuxuu dhahay waxaan rabaa inaan u diga rogto in aan ku biiro shaqaalaha wasaaradda warfaafinta hal i caawiyo marka madaxa raadiya waxaa ahaa oday la dhihi jiray allah u naxariistee dhaashane maxamed faarax dhaashane وكاد مركز حلقاس مدح إذاعة تي في راديو مقدشو وحا مدح كاها تري راشانا مدح كاها وقيبت راديو تي في مجري ومالنا ما شغالين تي في هولقبوها marka waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaa wax dhab u sheego dad Soomaaliyeed meesha ku dhintay dad Soomaaliyeed hadii ninkan walaalkeena uu yahay dambiile oo dambigaas galay oo beelihii laga tirada badnaa ee daarood markaas magaalada ka qaxay u dhibaateeyay iyo dad kale Soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan bilsariix u hadalno oo Ilaahay ka cabsano run ahaantiina aad sheegto xataa qofta marqaatiga koowaad Cabdisalaam mar labadan kugu cilnaa xusuustaada inaad dib ugu noqoto adoo ka faa'iideysanaya arrintan arrin sahlan maahan nin Soomaaliyeed waaye nin waliba reer caruur haysta waaye inaan ku gefno ama dambi ka galno marno waa nin Soomaaliyeed laakiin hadduu dambi shacabka Soomaaliyeed ka galay qabiilku doona ka gal waxaan rabnaa inaan bulshada Soomaaliyeed loo cadeeyo marka waxaan rabaa inaad xusuustaada intaad ka barat intii yareed oo taqiin intaad ka barat bal adoo u sii dhacay falaalka iyo sheekada si u dhacday bal waxaan rabaa inaad intaad ka barat inaad noo taabato adoo maasan dib cadaada oo maasanta aniga horta 2 mitir ay sugayso cid bina aadana oo aan mataqaana ka baqayo ama aan figa xishoon ma jirto qofka xaqiiqada aniga hadii hooyaday ay ku dhashay hadaad dambi ummadda ka gashid oo aan noolahay markaas waxaan leeyahay ninkaas ummadda laga qabtay dibka hadda ka hor ayuu geystay ninkani markuu shaqaalihii saas ugu milmay waxaa lagu xiray nin la yiraahdo Cabdi Shiicali asaga buu yaqaanaa Allah yarxamo Cabdi macnaha waxa shaqada nin jecel u ahaa marka maadaama adeerkiina uu noqday wasiir uu ahaa gacmo dheere asigan waa ilaalo ku soo galay ayaa waxaa lagu xiray kadib shaqaalaha raadi muqdisho ka mid noqday Soomaa wiil okay waaxda la shaqeynay waaxda raadi muqdisho la shaqeynay teebeed qaybtaysa ahayd adoo faahfaahinaa insha Allah waxaan rabnaa wixii sayta u kala dhigno mogtaa ninkan waxaa barnaamijka ganacsiga nin la yiraahdo oo soo saar ka ahaa oo la dhigi jiray Cabdi Shiicali Allah u naxariistee xogaa ina soo dhawaato jacala si mikrofoonku ugu dhawaaday Cabdi Shiicali soo dhaw bravo Cabdi Shiicali bravo Cabdi Shiicali la yiraahdo oo asaga uu garanayo oo qoladan Soomaalida ee dhahdo Carab Saalax Cabdi Shiicali marka barnaamijku daadii jiray barnaamijka ganacsiga ayuu ka ahaa program soo saare iyo soo jeediye labadaba ka ahaa Allah yarxamo okay marka ninkaas ayuu barnaamijka la diyaarin jiray asagoo raaci jiray asaga markii dambe u dhiibay dhowr program uu yiri bal ila akhri waa talantaali aan wada akhrinayna Cabdi Shiicali ninkan soo saaray kadib Cabdi Shiicali wuxuu ku shabadeeyay in uu yahay nin daarood waan Arab Maxamed Saalax waa Arab Maxamed Saalax waa wuxuu ku shabadeeyay inuu daarood yahay daarood waayo dhahay ninkan booskan aniga ka qaadan doono mustaqbalka macna hadalkaas adiga ma taagna markuu lahaa saad ku waa joogno anagoo joogno oo kaalada wararka joogno marka ninkan mustaqbalka waxaan u qaadanay mustaqbalka in uu ninkani uu noqon doono nin kaga fiican ama kaga cod macaan ama kaga wax soo saaris badan saas daraadeedna madaxda ay ka qaadi doonto Cabdi Shiicali la dhihi doono ninkan ayaa ka activesan ninkan ku wareejinay meesha saas oo isteen marka adig markuu hadalaas dhigi jiray anaga waxaan u haysanaa ninkani wuu ka activesanaan doonaa wuu ka barnaamij raadin badnaan doonaa wuu ka cod macaan waa ka xumahay waa ka go'yay laakiin uu soo noqon doonaa Cabdisalaam waa ku soo noqotay maasanta waa soo noqotay Cabdisalaam Cabdisalaam waa soo noqotay maasanta marka waa ka xumahay qadkiisa xogaa ilaa ku soo baxday insha Allah laakiin qadka uu iska hagaajin doona insha Allah Cabdisalaam waa ninka marqaatiga nool oo hadda lahayo oo waliba dadka si wanaagsan u yaqiino goobjoog ka ahaa la soo shaqeeyay taariikhda uu soo sheegay insha Allah uu nagu soo noqon doona Cabdisalaam insha Allah sidaas ku soo noqon doona qadka ku soo noqon doona dhibaato malaha
balse intaan noo soo noqonaya cabdisalaam waxaan jeclaan lahayn bal inaan waraysi xasaasiya laba waraysi uu bixiyey laakiin mid kamid aan soo qaadanay waa mid uu ku qirinaayo inuu ahaa wariye inuu ahaa oo maanta bixiyey waraysigaasaan rabnaa bal inaan dhegeysano yar waa isku soo noqonanaa cabdisalaam waa soo noqotay braawo cabdisalaam aad iyo aad waa mahadsan tahay waa soo noqotay cabdisalaam waa jeclaan lahaa inaha braawo allah ciise waa soo noqotay cabdisalaam marka waxaa ka wadaa markaas tartan inuu meesha ka jiri doono halkaas iyo wad marka ka soco halkaas marka ninkan waxaan u malaynaya inuu tartan geli doono uu cabdishii cali booska asaga lagaga qaadi doono ninkii kadib waxaa noo yimid nin asagana allah yaraxmo oo la yiraahdo abukar wariye la dhihi jiro asagana oo dhalinyarada ka mid ahaa oo asagana la qaxay qoladii u qaxday madaxweynihii raacday ku jiray laakiin asagana uma dhalan beeshaas laakiin wuxuu iska nin dhalinyara iska qaxay oo wariyaashii waagaas iyo qaarkood iska raacay laakiin wuxuu ka soo jeeday beel la yiraahdo shiiqaal waa garta kaasina magaciisa wariyaas kale magaciisa abukar la dhihi jiray abukar yare abukar wariye inta badan ay dhihi jireen soo marka nin aad iyo aad active u ahaa abukar marka abukar dhalinyaradaasuu raacay kadib uu soo noqday abukaraa noo yimid mahad allah yaraxmo oo ahaa madaxa ogeysiiska xafiiska ogeysiiska mahad aadan xasan mahad cadda la dhihi jiray iikaadi hega waalin waxaan jeclaa marka hore inaad ugu soo celiso kii oo la shaqayn jiray magaciisa muxuu ahaa kan waxaa tiri abukar wariye waa shiqaalaa tiri shiqaal waa wiilkaas carab saalax uu ahaa kanina wuxuu ahaa abukar ka kale magaciisa tiri igwaadi kikood carab saalax kana ii sheeg cabdishii cali wuxuu ahaa ninka wariyaha qaybta barnaamijka ganacsiga u qaabilsan raadi muqdisho okay kaas waa carab saalax waxaan jeclaa nin walba qabiilkiisa inaan insha allah xataa laftiisa aan xusno u kaadi marka kaas labadaas waxay ahaayeen cabdishii cali iyo abukar wariye labadaas shiqaali carab saalax ahaayeen labadu marka waxay ka shaqaynayeen waa ninkan okay hore ugu soco marka haye raadi muqdisho ay ka shaqaynayeen mahad aadan xasan nin la yiraahdo asagana oo ahaa ogaadeen oo ahaan jiray madaxa ogeysiiska xafiiska ogeysiiska asagana mahad aadan xasan la dhihi jiray mahad aadan xasan haye oo asna ahaa ogaadeen oo ka soo jeeday asagana wuxuu ahaa madaxa xafiiska ogeysiiska raadiyo muqdisho madaxa ogeysiiska okay waa gartay saddexdaas marka asay toos ula shaqeynayeen laftooda soo ma ما ولما شقينين معناها رجعوا علامات رجعوا علامات ما فهمت أصلا علامة واقرت وهو هيستا مركز أيوة واقرت مركز حالة قبيل كان هذا وكعسن مركز حلقة سما هذا وكعسن أو كلام مركز حكي دين عاصي كسماي كيمت مركز أو كلام مركز شيكين يجي ومركز حان تاجنا هاي مالي را وقالت دورك سمالات الصونا أنا وبدن مركز أبو كر ونوش شيكين يجي هبل بحق جسوا تجي هبل بحق كوسو أركي وحصل دلدلي مركز نيكا وصل دلي abukar wuxuu arkay waxaas ka sheekeenay marka wuxuu nisbaystay maadaama abukar ilaa dhulkaas tagay uu dhulkaas ka soo waramayo inuu yahay familkaas marka abukar liiskii uu ku darsaday asagana oo dhawaanahan uu soo afjari doono fahamtay nin yiraahdo maxamed cali xange allah yaraxmo asagana waa nin aad iyo aad zaciim u ahaa oo aad iyo aad isugu fiicneen oo laanta afafka dibadda iyo afka soomaaliga barnaamijyo ka samayn jiray oo xaqiiqatan xange taariikh dheer gadaalan ka geli doona marka afartaas horta waxay ahaayeen afartii oo sarta dheer oo musawac uu ku dilay hal subax afartood hal subax uu dilay waxaa tiri cabdi sheekh oo carab maxamed saalaxa abukar wariye oo shaqaala mahad aadan oo ah ogaadeen iyo maxamed cali xange oo ahaa nin majartan waa هادي أفرتاس هل صباح يوصلت ماشي مستوى عدير أو بدي يدل كاسون في متقنا أو برا مستوى عدوا شقيا مستوى عدير وافهم أفرتاس مستوى عسكدري إيه ماشي مستوى والله قري ماشي عسكدري الله يرحمه وحاكوسو هني عبد القادر علي يدلي وأهانين حوالله سجنا سوق مرك عبد القادر علي يدلي عبد القادر علي oo nin xawaalaa si fiican okay kan waa lambar shanaad waxaan rabaa marka dilagsi u dhaceen inaad noo sharaxdo dilagsi u dhaceen ilaa waxaan moogtahay lafteeda caawa waxaan dhegeysan doonaa ummadda dhan aan dhegeysanaysa Soomaaliyeed meel walba ay joogaan marka waxaan rabaa inaad
بالصراحة أتقرب من أول بس ودلي يتعرض دي حاسس تعرض حاسسته يصابته يو حلو ودلي يقتيل الكردونا حالنا وقت صعوبتي حال بحنتها marka insha Allah ku noqoba insha Allah ma san horta ninkani markii ugu horeysay aroor hore waxaa shaqada soo galay ninka la yiraahdo Allah naxariistay mahad aadan xasan mahad cabde ما حسست تعرض ما حسست تعرض waa abril ayay ahayd 8 meelahaas ay ahayd 2019 abril waa 1990 1990 abril 1990 hore u socay marka mahad ayaa aroorta hore shaqada soo galay 8 barka meelahaas ay ahayd marka mahad cidna ma tabin sababtoo ilaalada irid ilaalinayso ayuu subax aroortii la soo fariistay haye mahad uu gacanta qabsaday meeshaasuu la galay marka dhalinyaro marka meesha taagnaa noo sheegta annaga waxaan soo galnay 10kii waxaa la yidhi mahad saaka xafiiska ma uusan furin dhalinyarada iridda taagnaana la taagneed oo dibaddii la taagnaayeen waa gartay taakiyaa uu ku jiray bes marka mahad la waayey oo saaka uusan meesha furin xafiiska ogeysiska uusan furin iyo dhexdii ogeysiska uusan furin marka shaki yaraa bilowday mahad ma laabanine shaquu usoo ka lahay xaguu ka baxay haye kadib abukar weriye haddana soo galay abukar weriye iriddu ka qabsaday haddana meeshuu la galay wuxuu la galaa musawicuu la galaa meesha kore meesha musawicuu la galaa meeshaasuu kusoo qaarijinaya ninkan waa gartay wuxuu dilay maa dilay abukar weriye dilay waa hal subax waa bisha waa abril 91 haye horu soco kadib aniga iyo waxaa nimid allah yaraxmo oo ila seexday habeenkaas xaafadda ila joogay maxamed cali xaangi maxamed cali xaangi wuxuu ahaa ninka tiftiraha afka oo majarteen ahaa luqadaha qalaad iyo luqadaha soomaaliga waa gartay marka barnaamijyo fara badan uu samayn jiray allah yaraxmo xaangi markay dagaaladii dhaceenba anuu ii soo guuray wuxuu yidhi niyow wuxuu aad u jeclaa aniga markaas ma fahamsanayn xaqiiqatan ma fahamsanayn 2 mitir ay sugayso marka barnaamij sameynayna wuxuu dhihi jiray aniga asaga ama ummad kale aan la sameynaa wuxuu dhihi jiray heesta aad ku soo qatimaysid cabdisalaan oo ha ahaato heestii maxamed calciga waa gartay cirkaa dheer dhulkaa dheer heestaas uu saari jiray ma fahamta waa gartay marka maxamed cali xaangi waa joogaa subaxaas asna labadiina waa timaadeen aniga waa isla nimid markaan isla nimid waxaa la yidhi wasaaradda boostada ayaa riboor ka jira dhaashana allah u naxariistay aa yidhi cabdisalaan meeshaad ka laabo meeshaas riboor nooga soo qaado wasaaradda boostada isgaarsiinta waxa laga qabanaya shaqo xagga riboor nooga soo qaado waa gartay waa laabtay xaanga marka meesha ugu tegay ilaan wasaaraddu dhex joogaa intaasoo boqol oo shaqaalo dhex joogaa marka cabsi kama qabo sama معناه دارتك الوارسنا مركا أدو لفتها وحاوي أمن جيستنا مربى حكومة تجعش ولا صعطة يعني مربى كوريسا مالا كودا شقينا ها نيكي اسمينا كودا شقينا وهل ميلا وصوت قلنا هذا مركا بحين غوريغا ودا تغنا غوريغا كودا نولنahay marka xaangi aan cabsi kama qabin inta aan ila joogo wax cabsiin kama qabin ma faham waa gartay inta wasaaradda joogana waxaan isleeyahay inta soo milyan oo shaqaalaha dhex jooga problem ma dhacayo ma faham waa gartay على كل حال ننكي هدو الله كو إدمايو وحا حتى إلهي بدبادي نين اللي يراهدو عبد الساق حرسي حسن وأساقنا من جرتينها إيا قبر أيضا ماشي كشاقين جرتي رق أيا الله قبصدي عبد الساق أيوه إنو كحيستر ربي عبد الساق حرسي حسن حرسي حسن وما جرتينها ما جرتينها ننكي على كل حال يعني هذا الكائن اسكو ملغنين على كل رقي مركو أفرتاس كسو تقاسلوسي أيو هرت حانجي عبد الشيخ علي ومركز دكنا قبي أيو أصول لابت واقرت مركز سيدي حوالي موضنا هذاك معناها وحان ربا صادق أنا دعسو حسا أفهمان ربا دادك أنا دقيسان أفهمان ninkan dadkii uu maana qof maalmo mar wadana wuxuu geysanaa meesha kore musawaca ka dusha uu geynaa uu soo dilaa rasaasta soo la maqlima meesha soo maaha meesha raadi muqdisho soo rasaasta la maqlima see ku dhici kartaa in qof inta la wato la dilo mid kale haddana la wato la dilo
waxaan rabaa bal inay bilsarax bal noogu si tabal noogu sheegto waa su'aalaha la meesha ka yimid horta sarta musawaca ma la fuulayo ganjaalka weyn marka laga soo galo hoosteed meesha dilaayo ma faham marka iridda ganjaalka laga galo ها wasaaradda warfaafinta waa taqaani waxay kasoo horjeed ciidanka booliiska kasoo horjeeday meel تلسي maqaayad عين بوليس كوسا ها meel oo cafeteria shaaha laga cabo shaqaalaha ka cabaanaya lahayd shaqaalaha ganjaal yaraa ku dheganaa oo musawaca laga galo sartaas laga galo musawaca ilaa waa ganjaal lahayd marka ganjaalkaasuu la galaayo meel barxad oo meesha isla meesha ayuu ku toogto ma faham واقر marka hadduu alla ku idmaayo ninkii sidaas ayuu horta maxamed cali ninkan la yidhaahdo mahad iyo abukar wuxuu ka helay ganjaalka gudaha maba soo gelinba ma fahamto واقرت oo qof ogaan karta ma jirto ganjaalka weyn oo aragtay واي رصاص على رصاص تديد على صور مغل مع عبد السلام سيكون على رصاص may rasaas dee wadankii waa iska u s c waagaas xabadaha iska dhacayeen mana la tuhmeynin midda kale ninkan afsaaru kaga dhigay degdeg meeshuu ku dilay wax aroor hore ahayd qof tuhunta ma jirto labadaas aroortii hore uu kaga takhalusaba هي اوكي markii la goormaan ogaad doontii marka adigu goormaan ogaad doontii ilaa maalintii intaas adiga saaxiibka adoo shaqo ku maqana saaxiibka la cunay saad sheegayso ninka ah maxamed cali xaangiye ugu dambe la cunay marka afartaas markuu cunay kadib maxaa dhacay bal intii wixii dhacay bal noo sheeg kadib aniga horta 10 subaxnimaan soo galay markaa 10 soo galay allah raxmad dhaashane ayaa irid iga hor yimid meesha barxadda iga hor yimid oo wasaaradda faafinta gudaha marka loo soo galo markaas wuxuu ugu dhahay niyo orod carar wasaaradda waxaa tagtaa boostada isgaarsiinta barnaamijkaas nooga soo qaad waa gartay marka xaango ila socday xaango waxaan ku dhahay niyo halkan iska sii fariisto dhalinyarada iskala sii sheekayso waa kuu soo laabana xaggan tagaa markaasuu dhamay haddaan halkan joogo cabsi ma qabo iska bax haye waa iskaga soo baxay xaggaasaan tegey marka xagga ka soo laabtay yaa shaqaalihii oo buuqayaan u imid meeqa saac soo laabatay marka dilka waqti u dhacay waxaan soo laabtay adi meeqa saac soo noqotay waxaan rabaa ilaa adduunyadana dhegaysanaysa wixii inaan dhabta inaan wixii dhabtiisa isla ahayn xasuusano 6 saac ama 12 duhurnimo soo laabtay markaan soo laabtay meeshuu kacsanaan imid cabdiqaadir cali iidlahan allah naxariistay iyo cabdi sheekh doon nageeyi iyo rag fara badana meeshii walaacayo galgaalinaya shaqaalo fara badan oo iska daba wareegaya meesha ugu yimid iyo oday la yidhaahdo cali waranto oo madaxa farsamo yaqaanada ahaa iyo dadkaas hadda ma nool yihiin raalow dadkaas hadda ma nool yihiin oo hadda aad sheegayso oo maalinkaas markhaatiga nool ahaa wax ma ka nool yihiin ma noo magacaabi kartaa xilligaas taarikhdaas wuxuu dhaceen dadka jooga oo nool oo hadda raadi muqdisho ka shaqeeya ama adduunyada meel kale ka jooga si aan waraysiga u xoogaysto horta wallaahi rag fara badan aan nool hadda cabdi sheekh doon nogeeyo kale allah raxmo hadduusan dhiman hadda saacadaha hadda aan taagana wuu noolaa wuuna joogaa hadda saan jeclahay subaxaasan sheegaa subax dhib ka dhacaya dadka jooga u baahanahay oo si aan ula xiriirno aad aad wuu joogay cabdi sheekh doon nogey wuu joogay waana ninka keliya ka dagaalamay sida xaqiiqda ah waxaa kaloo joogay nin la yidhaahdo cabdiqaadir maxamuud walaayo wuu joogay waxaa joogay oo ninkan hadda cabdirasaaq xirsi xasanka hadda aan kuu sheegay wuu joogay hadda ma inkastoo maqli fiinland ayagu ku nool yahay waa inaan raadiyo waayo ma hayo ciwaankiisa laakiin rag fara badanaa joogay oo waagaas noolaa hadda shaqaalihii ila shaqeynaa waaye dadka shaqaalaha oo maalinkaas dhacdadaas jooga oo adigu aad ka mid ahayd oo aan rabna haddii aad xusuusleeda inaad xusuustaas insha allah bal inaad ku noqoto si aan waxaan rabnaa dadka kale laftooda aan u helno dhacdada see u dhacday oo dhabta ah waxyaabaha ka tagta ama ilowday inaan xasuusanno oo haddii ay suuragal tahay bal mar labaad ku noqo si bal haddii xasuustaada ay suuragal tahay maame waa xasuustaa waxaa joogay nin la yidhaha injineer cabdillaahi yuusuf oo haddeertaan muqdisho joogo rag fara badanaa joogay raggaasi waxaa xaqiiq ah dadkan adduunyada sideeda 2 mitir dadka sugayso ma fahamta inuu qofka been ka sheega ma wuxuu u taagnaa ama uu markhaati ka ahaa afartaasi nin kadib waatuu wadana soo laabtay marka annaga waxaan ku xaqiijinay ninkan la yidhaahdo oo aad iyo aad kiiska u fashiliyey inuu asaga ka dambeeyo kiiska cabdi sheekh cali ayuurani iyo nakaan oo dhahay cabdi sheekh cali wuu dareemay inuu labadii kala waayey saaxiibadiis haddana uu xaange asagoo qasbayo laba wiil oo kaleentoodna ay xaange garabka ka qabteen ay jiidayaan ayuu cabdi sheekh cali indhaha saaray suu cabdi sheekh cali sheega allah raxmo intuusan dhiman cabdi sheekh cali ninkan ayuu soo jiiday
dhalinyaro fara badan oo kusoo yaacay war ninka xagee u daa markaasuu dhaa war ninkaan iyo mataqaana dhexdeena ka baxa ما هو dhexdeena ka بيسيه baxa مركز نكان wuu نكان habeensanaya العيس qore ما هو بيسيه taakay ha هاي qori wataa مقري laba وتا wiil oo kale la socotay cabdisheekh cali wuu qalqalay markaasuu dhaa war ninkan xaanku hadda halkan la galay ninkan iga reeba asagoo dhahayo ayaa uu asagana qolka la galay isla markaas xabadihii intii cabdisheekh doon nageeyey iyo saraakiil fara badan oo meesha ka dhoweyd kusoo yaacayeen xabadihii uu qabadsiiyey markaas xabadihii si fiican loo maqlay gudaha la galeen waxaa la arkay mahad iyo abuukar iyo xaange iyo cabdisheekh cali markaas u dambeeye uu sii jiiday afartooda markaasaa raxdooda loogu tegay meesha أفرتو هالمال أفرتو مركز ما هالمال لا دوغي أسكاس كناعي حقي لو دوغي أديكو ماسر horta waa arrin muhiima saa ii weydiisay ninkii isla markii gasgas nin la yidhaahdo generaal gasgas inaad taqaana jeclahay ها عثمان قسقس تلي عيدك بوليسكو هاي ha ayaa markaasi meesha marayey oo xeradii sii gelayay meeshuu arkay wasaaradda warfaafinta irideeda laisku dagaalayo laisku buuqayo asagii ilaalihiis way istaageen way soo degeen sidee wax u jiraana la yidhi waxaa la yidhi raggaan oo shaqaalaha ka tirsan ayaa meesha meydkooda lagu helay ninkan ayaana ka dambeeyey kiiska هاي bas wuu inkiray isla markii wuu cararay meeluu galaa la waayey saaxiibadiisa gaariga dabada usoo marka gasgas meesha wuxuu yidhi kiiskan waa la baarayaa xeradiisu iska sii galay xoogaa kadib waxaa noo yimid nin la yidhahda allah raxma uu dhintay gentleman inaad taqaana male oday siyaasi ahaa jiray سفيعة kiiskan waa la baarayaa isdejiya shaqaalihii waxaas uu qudbeeyey nimankii markii xoogaa gabalkii dhici rabay ayay gaari ku qaadeen meedadkii waxay ku daadiyeen waddada warshadaha وما الأصل meeshay ku daadiyeen way ka soo tageen يا kadib ميتكاس ayaa قاد ميتكاس يا قاد أو كوسو باورت تكو قاد ميتكي تلك صدم كوسو دادنا ناس بدي حقيقي waxaa ku soo daadinaya beeshuu asaga ka dhashay raggii meesha ka joogay oo mooryaanta ahaa oo irinta taagnayd أوكي أورادي هايستي وافهم أيوة بيش سليمان وا أيه وعم كاس تذكر ساس ويجس حلقة مش شقينا أيه وأصيل شقينا wallahi waa ciidan waxaan waa USC ahayd ciidamo qoryo watay ahaayeen wax magacooda lama garan karin malaayada marka asagaa naga soo dhex galay asagiina soo dhex galanana wuxuu noo soo dhex galay problemkaan ma fahamta واقد أصيل هرش شقالة دول موها هرو موسى شقي suu noo sheegay macallin iskuul b baa ahaan jiro nagu dheh مع البيبين هاي وكل أوكي أيه marka مركا ديل nin كاسو وحين نقدر مركا صار إيش تأفر وحود ديل عبد الرشيد وحود ديل تري ديك اللي عبد الرشيد عرب محمد صلاح وحود ديل أبو كروري أو شغالها ما آذن أو ها سجن وقاعدين وحود ديل محمد علي حانجي أو ها مجرتين أفر تسود ديل وحنا مرك عبد القادر علي إله يا عبد الساق حرسي أيوة ما كفى كذا سيء وحنا عم رايق بالله حقيقي سيء عبد الساق نك اللي عبد القادر علي إله إيو وحوالله يا عبد الساق حرسي حسن cabdiqaadir cali iidle allah u naxariisto wuxuu ahaa tafaftiraha raadiyo muqdisho ahaa markaas ka hor uu ahaan jiray xillaa dowladda gacanka xataa u ahaa وافهم ايه cabdiqaadir cali iidle wuxuu taagnaa wasaaradda warfaafinta meesha laga galo waa taqaanaa meel yar oo shubaa ku aadan maaragtay oo balkoon camal baal shub ah ها marka jaranjarta la fuulo shub ayaa meesha dushaada ah sooma ها marka shubkaasuu taagnaa ninkanina gacma dheer ayaa wuxuu u soo qoray maadaama uu yidhi waa xanuunsanahay lacag yar oo gunno ah oo la yidhaha farmashiyaha kaga soo iibsa camal هيه lacagtii marka waxay ku socotay nin la yidhahda calibaay oo ahaan jira ninka faalladii u qori jira oo markaas ahaa uu qaabilsanaha dhaqaalaha wasaaradda warfaafinta واقرت marka waxaa la yidhi warqadan qaado 100 iyo xoogaa kun meel mase 1 milyan wax saas ahayd markaasaa la yidhi orod calibaay ula tab kala ka qaada lacagtan هيه ku gado يا أسأل تجا ها taakeeyey marka wuxuu ula yimid calibaay wuxuu ku dhahay lacagtan baa wasiirka ii soo qoray isi waa maalin kale yaa markaas ma aha maalinta uu raggan dilin ma أو aha نيكي waa أسو maalin kale أو كاذب عبد السلام أيدا بنتي أرين كلا حمار مشكلة كلا نيكي أسو ضدك اللاي أيوة ده نح جوجا ضدك ميام وأنا وزارة دي ولك شقينا أو ضدك اللاي شقالي وزارة الرفافين أصيغ اللاي وهذا كده شقينا ميام oo ka dhex shaqeynaa oo weliba ilaaladii wasiirka yaa weli أو إلى هذا وزير كاس مقعيس كعيل مرة واحدة كل مغنانة maxamed maxamuud gacma dheer aa la yidhahdaa ilaa ورزاري lagu هوري leeyahay أو حلقة أو مقعابة مقعابة عبد الله يوسف وهذا بالرزارة نقضي maya
إيه may waxaa madaxweyne ahay cali mahdi waxaan ra'iisul wasaare إيه ahay كم cumar هلا cabdilaahi حل salaam الدنبا والرزان اللي هو مقعبي أو سعوة حل أو سعوة محمد قاعد ها هاد ها لفتي ها ونوريا صح يا صح ra'iisul wasaare kumeel gaar hadda ka soo mar sax براو وافهم مركا أفرت صوت دلي أي مركا تنشأ كذا كان نود مركا استان كذا كل عند مركا نود مستر qisadan wasiirka ayaa wuxuu soo siixay lacag yar oo ninkan dhakhtar ku tagay boqolaal may ahayd mise milyan waxsaas ay ahayd cali baay ayuu u qaabilsanaa wasaaradda raabinta qasnaji cali baay ula tagaaliyay ka qaado lacagtan cali baay u yimid cali baay wuxuu yiri wax lacag oo mataqaanaa soo sarrif habeeraatay ma jirto lacag kaash ma hayo laakiin daawadan hadda u jiran tahay anaa kuu soo gadaa magaceeda isii inta kuu soo hartan oo dhaqaalaan waa ku siinaya laakiin marka hore hadda wax kaash ma hayo markaasuu yiri maanigaa saas ugu leedahay wuu carray iriduu tegey iridii wuxuu ka soo qaatay mid meesha joogo qor ka soo qaatay laba wiil oo qoryo watan ay ka soo daba carareen jaranjartuu soo fuulay cali baay wuxuu ku jiraa xafiiska iridda waxaa taagan nin la yidhaahdo cabdiqaadir cali iid allah yaraxmo marka wuxuu is yiri intaad gudaha gelin xabad inuu qoriga shaqaynayo in kale xabad barowaa rid marka wuxuu ka qaldantay meesha inay tahay shub xabadii baroowada ahayd intuusan cirka u ridin ayuu shubkii ku dhuftay xabadii way soo laabatay cabdiqaadir madax kaga dhacday cabdiqaadir goobtuu ku dhintay allah yaraxmo cabdiqaadir waa qofkii shanaad u dilaayo ha cabdiqaadir markuu meesha ku dhaco dhintay ninkii wuu falka naxay wuu cararay meesha qaybta dambe cabdiqaadir waa xawaale suk waa isla fahamsanaa cabdiqaadir waa xawaale kuwan kale waxay lahayn dad oo beelahoodu معناها مدارات كقحي قيبة كمية يو دادو كم عارف محمد صالح لنا انت يرشي قالي هاي مركب لكن تن ويل كان وويل او اما واصو اما عبسي قلي وصلها لكن اي حبادو كفكتي مركب حوالو نغي ما سي جوغا هدان كوهر waa sii joogo arnay marka ninkan xawaale markuu dilay maxaa dhacay markuu ninkan dilay allah yarxamo isla markaas waxaa meesha marayay oo markaasna ahaa gudoomiyaha gobolka ahaa cumar xaashi allah yaraxmo inaa maqashin galay waa sax cumar xaashi meesha baarlamaanka ilaa iyo guriga cali mahdi ciidamadii joogana waxay ahaayeen meesha uu ka soo jeedo cabdiqaadir cali iid isla markay maqleen ninkaana la dilay way soo yaaceen meeshay soo galeen waa garta xawaalihii markay meesha soo galeen ayagoo hub fara badan watay iyo baabuur fara badan waxaa la harqiyey qoladii uu taakeeyay la jooga meesha ayaga dhanba waxay ku ahaayeen 30 iyo waxsaas wiilay ku ahaayeen 300 oo ciidana timid oo familkii cabdiqaadir cali iid allah yaraxmo waa garta dhulkii dhan ay qabsadeen waxay dhaheen wax nuuxsan kara ma laha taakeeyay marka wasaaraddu ka dhex baxay madaxtooyadu galay isla markiiba intuu qoriga tuuray marka madaxtooyada xilligaas Salemaanka dhinaca keesta madaxtooyada markaas sacadays ma sacada joogay laakiin ciidamadu dhex galay markaasuu war aniga reerkaasaan ahay xawaale ay dili rabo hal ay badbaadso ma fahmo waa gartay bas meeshii ku hayeen xawaalihii dhalinyaro meeshii joogtay oo qoryo wadatay oo ka soo oo taakay la socotay waxay ku arurseen gawaarida waxay dhaheen iidda kaligiis lama aasayo nimankan lala aasaya waa gartay hurwaayaan geysanaynaa hotel garguurtaan geysanaynaa marka raggana lala aasaya iidle midka way qaateen raggana gacnahay ka xirteen baabuurkii ku qaadeen waa gartay cumar xaashi allah yaraxmo iyo rag la socday ahaayeen way qaateen hurwaayay geeyeen saacado kadib galbihii camal ay soo sii daayeen ee dhaheen orda dadka familka marka loo geeyaa layidhi malaha nimankani ma rabno ninkii wax dilaan rabnaa ma fahamta waa gartay nimanka waa la iska soo sii daayey taake ma soo noqday taake marka dibdib kugu soo noqdo ma soo noqon karo sababtoo ah isla markiiba xawaalihii waxay sameeyeen ciidamadii USC meesha jooga ayay rag ku darsadeen ma fahamta waxay baabuuri soo dhigteen waxay dhaheen ilaalada meeshaan wasaaraddan ka mid noqon doonaa ninkaas ayaan ka dhex raadsanaynaa meeshaan joogaynaa waa gartay waagaasna wax oo protocol ma jirin wax meesha ka eri kara ma jirin qof kasta meeshay tiraado inta ilaalo ka naqana qof u diidays mal meesha iska fariisteen ma fahamta haye taakay marka meesha uu dareemay inay xaaladdu xun tahay kuma soo noqon maalintaasoo noogu dambeysay isla marka waxaan maqalnay ninkii Kenya uu orod ku tagay Kenya markuu orod ku tagay isla markiiba islaan process Canada u xareysay oo meesha ka helay oo tiri guurso islaantii malaha process ciyaalkeedu kula xareysay maqalnay sidii uu Canada ku galay ma fahamtay
كندا أديكو طبعا مريكا ما كندا ماشي عطم حلقة أصلا مركا وعقلي مريكا كدب ما كندا قرمات وقالك أديك مركا كندا مركا مركو أوقاتي وساسك أوقاتي لفتها عبد السلام حلقة ست نظير رايدن سادكو أوقاتي إنه تاكي هاي حالات بل صفة عنو قشرة مثلا سادكو أوقاتي بلانتا ogaansho oo noocee markuu hadda social media soo gala mise السوشيال ميموري كوسو قالها social media markuu soo gala ninkan waa aqaan wejigiisa waa aqaan nin iga dhumaayo ma ahaan codkiisa waan aqaan waa asagii weli wax iska bedelay haba yaraatee ma jirto inta cirradan yarta kusoo biirta moogi waa asaga ninki waa ninki absolutely asaga waa marka ninkii عاوة دتك مسؤول أوكي مسؤولين دتك الصومالي ما تقول لك سنة ninkan waa nin hadda isku sheegay inuu urur haysto waa nin xilligaas waxa ka soo ragtay 30 sano ka soo ragtay oo dhibkaas u geystay waxaan rabnaa mar labaad dad Soomaaliyeed oo maxassa oo marasa oo waxba aan galabsan oo qabiilo Soomaali isku jira ee gulay beeshi daarood ee markaas laga xoog roonaaday dagaalkii sokeeyay saabsaday ayaa waliba la shaqaale dawladda dalkooda u shaqeynaya ayuu mid maalin dilay waxaa inda xumaha haddana si in meydka xataa aan laasino maaragtay inta la qaaday sidii xun oo aan sharci waafaqsanayn loola dhaqmay dadkaas waa dad dalkooda u shaqeynaya halgamayaale ahaayeen taariikhdaas wixii ka dambeeyey adiga goormaa ka soo tagtay raadii muqdishise dadkii shaqaalaha maxay dareemeen yaase hadda lafteeda arrintaas oo kale mas-uuliyiintii ma loo sameeyey borordiiq xataa ma loo sameeye lagu xasuusto waa xasuuq aad u inda xun oo foorxumo ah oo dadkooda u shaqeynaya la baabiyey marka cabdisalaan bal maxay dareen un ku reebtay haddii adiga saaxiibka weliba xalay guri kula seexday soo maanta meyda aad aragtay bal arrintaas fiican noogu qeexba aada umaadsantaa horta aniga maalintii raggaas la laayay xaqiiqatan waan dareemay in ay meeshaan xal ka soo socon dad mataqaanaa heeriyadooda cuna isugu soo haray maalintaas ayaan go-aan ka gaaray inaanan dib damba ugu sii shaqeynin Soomaaliya iyo meel ka mid a dib dambana mataqaanaa uma soo booqan wadankii oo dhan sidaan uga soo baxay sidaasaa weli uga maqanaa waddanka cabdisalaan marka waxaan rabaa waqtigaas shaqada haysay iyo xilkaad haysay bal dadkaa kula qaybsaan bal u sheeg raaydan muqdisho maxaad ka hayd shaqada haysay maxay ahayd horta markayga ugu horreysay aniga 86 ayaan waxaan bartem waxaan ka bilaabay wargeys la dhihi jiray xidigta October shaqada koowaad macnaha shaqadeedii ugu horreysaa markaas 86 dugsiga ma ka baxda markaasi 86 dugsigan ka baxay markaasi inta aanan qaybta aanan la fool u gudbin qaybteeda kale intaan dhiganayo waxaan bartam ka shaqeynayay wasaaradda wakaaladda madbacada qaranka qaybta wargeyska xidigta October liiraad goorma marka raadi muqdisho soo wareegtay kadib raadi muqdisho waxaan ku soo wareegay mar allaal markii uu naga soo dhamaaday groupkii dufcaddii xilligaasi ugu dambeysay soo qalan jibinay 9-meeyadii aniga horta isla markaas bartamkaasi aan xagga aan joogo ayaan haddana isla 87 miya 88 dabiyaaqadeedii ayaa waxaan ku soo biiray haddana bartam oo wasaaradda warfaafinta ah qaybta oo tikniiga ah farsamada ah kadib markii ii soo dhamaatay qoladii la fool ii soo dhamaatay si toos ayaan ugu soo wareegay wasaaradda warfaafinta oo aan ka shaqeynayay ilaa 91 mar allaal markii qarixii dhacay problemyadan dhaceen waan isaga soo tagnay wadankii oo sababtoo dad oo saaxiibada ah ayaa meeshii ku weysay marka abateed ama niyad ah ugu sii shaqeysaa bay raatay ma jirto waa maasanta horta caawa waxaa ku dhegeysanaa laga yaaba inaan dadkan eheladoodii caawa ina maqlayaan laga yaaba waxaa kamid a cabdi sida uu cabdisalaan inoo sheegay cabdisalaan wuxuu leeyahay waxaan goobjoog ka ahaa dhimashadii ama dilkii la dilaayay cabdisheekh oo ahaa carab maxamuud saalax iyo cabdi abuukar weri oo shaqaalaha iyo mahad aadan oo asigana ahaa qabiil ahaan marka sheegan raali laga noqdo qabiilka waxaan ku sheegan in lagu xasuusto ogaadeen iyo maxamed cali xaangi oo ahaa qaybta afafka dibadda waa ninka ugu xilka culusay marka xilkasi u hayeen oo ahaa majeerteen ahaa iyo cabdiqaadir cali iile oo ahaa hawaale shantaas waa shanta nin oo ninkan lagu tuhumaayo oo lagu eedeynayo inuu gacan ku dhigla ahaa cabdisalaanna waa dadkii ugu dambeeyey waana sababtii uu dalka uga soo baxay cabdisalaan caawa waxaan rabaa adoog fursad dadkaas waa dad maanta adiga dadka ugu dambeeyey oo arka ama geeridooda ogaa ayaa tahay dadka noolaa tahay maxaad eheladii dadkan ka dhintay aad u jeedinayd maantase hadday maxkamad timaado oo cadaalad timaado diyaar muu tahay inaad ku marqaato fuusho falkan markuu dhacayay inaad ninkan maxkamad la fuusho maxaa waacay dad Soomaaliyeed oo waxba galabsan oo qalbiga dadka Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed hagraan ugu shaqeynay
ayuu qalbiga dadka Soomaalidu ka dhaawacay dad badan baa hadda ilaa hadda dadkaas xataa meel ku nool inay garan lahaa meel ku dambeeyeen caawa media ka maqlayaan marka waxaan rabaa bal waxaad nala qaybsan karto iyo inaad la qaybsan karto haddii cadaalad timaado inaad maxkamadda qayb ka noqon karto marqaati ka noqon karto waxaan u baahanahay iyo dadkii Soomaaliyeed ee dadkan ku geeriyooday haddaad tacsi u dirayso iyo haddaad fariin u diraysaba bal ayadan ku soo dhawo aad u mahadsantahay horta diida cadde fursaddan qaaliga ah aad caawa mataqaanaa aad isiisay horta cabdirasaaq ninka la yidhaha cabdishii cali allah yaraxma waa ninkaas aan kuu sheegay waa carab saalax asaga iyo xaaskii uu ka tegey walaalihiis iyo carruurtii iyo familkaba intaba mataqaanaa waxaan ugu tacsiyanayaa dhibaatada waagaas ku dhacday waana isla markaasna xitaa wargeysyada waagaas soo baxay waan kusoo qornay anagoo badan waxaan ilaahay uga rajaynayaa inuu ilaahay mataqaanaa sabar ka siiyo waa muddo dheer inuu ilaahay ka sabar siiyo annagana mataqaanaa ilaa hadda qalbigeena kama gooyin walaal aan jecleen ayuu ahaa abukar weriye asagana saasoo kale walaal aan jecleen ninkaas aseegayso oo hadda ka bilow muxuu ishaam ciise cabdisheekh Soomaaliin Maxamed Salax cabdisheekh cali waa nin carab salax adoo mahadsan meeshu deganaa iyo carab Maxamed Salax ciduu ku hadda noo sheegi karto ninkaas reer cabdicasiis oo ahaa cabdicasiis meelahaas uu deganaan jiray laakiin xaasi carruur ma laha aad iyo ciyaali xaas walaha ma sha Allah da ahaan xilligaas daada qiyaasta daada ku qiyaasi karto ciyaal asaga da'diisa haddii u badato markaas cabdisheekh cali haddii u badato waa 40 ku jiray waa gartay cabdisheekh caawa adoo ka faa'iidsana oo u tacsiinaysaa marka tacsiyada kadib waxaan rabaa inaad insha Allah bal dadka haddii eheladooda ay kula soo xiriiraan cabdisalaam hadday Soomaali Wadan TV la soo xiriiraan tanna arrintan inaad kala shaqayso diyaar u tahay Soomaa aad mahad ayaa asagana u tacsiinaa reer Madiina ahaa asagana Madiina u deganaa mahad aadan Madiina ku dhashay ku barbaaray abukar weriye reer Madiina asagana Madiina mahad aadan asaga ogaadeen ahaa tiri maadaama isku leega isku loo daadeedeen mahad aadan ogaadeen ahaa ogaadeen ciddu ku amishay karta adoo maasan wallahi waagaas qabiil lama aqoon laakiin markuu dib ka dhacay leen ogaanay mahad inuu Soomaali yahay meel igala shaqeeya ogaa markuu dib ka dhacay oo waxaan la isdadagaalay kadib ogaatay macnaha in beesha si ogaadeen yahay laakiin ciddu ku amishay karta xaas ma laha carruur ma laha aad iyo ma sha Allah xaasoo lahaa iyo carruur oo waagaas xitaa qaarkood soo ka koreen marka raggii baxaqiiqatan aniga wax oo mutafajay waa ilaa hadda aan la yaabanahay rag intaas sana aan la shaqeynayo xitaa dawladdii gacanka aan la shaqeynayo aniga wallahi haddii ay yaqaaneen mooge laakiin ani ma aqoon ani markii Allah markii qabiilkeeta wala ma yaqaan qabiil isma aqoon runta okay kaas waa fahmnay abukar weriyan kaarba sheeqaarsha ninkaasna ninkaasi niyow waa nin reer Madiina Madiina ku dhashay hooyadiis ayay mataqaanaa mahad qaraabo ahaayeen ma fahamtay mahad iyo waxaaba abukar qaraabo ahaa dhinac qaraabo ka ah waa mahadka waadeenka ah mahad aadan iyo abukar sheeqaal labadooda dad qaraabo meel ka ahaa abukar saan jeclahay sidaan ku maqlay waxaan ku maqlay hooyadiisa ogaadeen saas daraadeed ayuu marka hore u raacay ciddaas ayuu reerkaas u aaday oo qaxiyo raacay macnaha marixaan ku raacay waa soo noqday marka daaradku raacay waagi ku qaxay raac macnaha markuu soo laabtay ayuu sheekada ka sheekeynaya marka saasaa loogu maleeyay ninkan inuu yahay familkaas marka dambe ayuu ogaadeen markaas waxay yidhahdeen waa ku qaldanay way yimaadeen xitaa familkuu ka dhashay ninkeeniyaa rabnaa waxyaaba noocaas ay dheheen iyo ninkii dilay yaa tusaba okay maxamed cali xaangana waxaa tir majartay maxamed cali xaanga majartay ciddu ka mishay kartaa adoo maasan wallahi niyow aniga siduu ugu dhahay asaga Allah ya raxmi intuusan dhiman ka hor ilaa ninka gurigaas la deganeen maxamed cali xaange siduu ugu dhahay reer cali xaange wuxuu ugu dhahay waxaan qaraabanahay ninka la yidhaha axmed cali igaal okay marka oo ay deegaankoodan gaalkacyo waa malena originkooda meesha ka imaadeen laakiin ninkani wuxuu ahaa reer baarraax u ahaa Allah yarxamo dhammaantood waa ka tacsiina marka cabdiqaadir cali iidle asna kaa rabaa cabdiqaadir cali iidle asaga waa nin reer hiiraana wuxuuna hurwa ayuu deganaa waana si fiican waxa simbal u heli kartaa oo si fiican mataqaanaa akhbaartaasi oo looga heli karaa yuusuf garaad cumar axmed ninka la yidhaahdo oo ay aad iyo aad cabdiqaadir cali gacantiisa midig u ahaa saaxiibkiisa u ahaa qisada oo dhanna asagana sida anigu ugu oge yaa igu cel ninkaas ogeyo ahaa yuusuf garaad cumar axmed ninka si fiican yuusuf garaad waa
yuusuf garaad axmed si fiican okay si dad kaloo fiican hadda aad xusi karto oo ka qayb ahaa arrimaha macnaha xog ogaal ka ahaa ama markhaatiyaal ah sida adigoo kale joogay oo hadda shaqeeya raadiyo muqdisho ka shaqeeya oo markhaatiyaal waddanka gudihiisa jooga ah oo is leedahay waa shaqeeyaan ood maqashay maadaama hadda sweden aad ku dhaqan tahay cabdisalaan ma jirtaa wallahi horta raadi inay ka shaqeyn kala ma aqaan laakiin cabdi sheekh doon nageeyey wuxuu u shaqeeyaa hay-ad sanfal sidaan war hayo yuusuf garaad wuxuu u shaqeeyaa maaqaan diblomatic waxaas asna hadda ku mashquulsan yahay sida hadda aan war ka hayo adi dhalinyaro fara badan oo waa la helayaa oo noocaasa laakiin hadda wax waagaas joogay cali waranta wuu dhintay saan ogahay abukar madoobe oda laydhidii jir wuu dhintay yaa kaloo waagaas nala joogay xasan cali diri henner wuu dhintay asagana agaasimaha guud ah waagaas niyahow hadda ma xasuusto waxgaas wax nala jooga laakiin rag fara badanaa nala joogay cabdirasaaq xirsi xasan wuu joogay sababtoo ah cabdirasaaq xirsi xasan ragga la raadinayo ku jiray aniga waa ku soo gaaray cabdirasaaq xirsi xasan oo nool uu raadinayo waan dagaalanay waxaan dhahnay cabdirasaaq horteena laguma wadan karo meesha isaga taga cabdirasaaq annagoo sidii u hortaagan ayaa waxaa noo yimid cabdikariin faarax jiir odan la yidhaahdo oo la xamiista ah oo iftin ka tirsan inaad taqaanin kala maqaan ninkaas ayaa noo yimid ninkaas ayaa yidhi ninkani waa wiilkaygii cid taaba kartaana ma jirto intuuna kula dhaqaaqay ninkan wuxuu dha gurigu ila degan yahay adeer ha ku celi ha adeerkiis barnaamij la dhihi jiray mataqaanaa dhaqanka iyo waagii hore iyo suugaanta uu samayn jiray cabdirasaaq xirsi xasan oday professor ahaa ayaana adeer u ahaa marka barnaamijka ninkaas usoo diyaarin jiray waxaana mataqaanaa cabdikariin faarax jiir ayay deris ahaayeen waxay isla deganaayeen guryihii oo iftin ay wada deganaayeen marka cabdikariin faarax jiir ayaa wuxuu yidhi wiilkan waa wiilkeygii cid taaba kartaa ma jirto maadaama cabdikariin faarax jiir uu ahaa heeb ahaan ninka taakey ay jirboos isku ahaayeen cabdifaarax jiir waa ninka hadda fanaaniinta kamid soomaaliyeed oo hiisaa libso maa ninkaas sheegayso abwaanka mu'alifna waaye waa nool yahay abwaanka umalina wuu nool yahay si fiican ula socdaa ninkaas taariikhda isagaa wuxuu yidhi cabdirasaaq xirsi xasan cid taaba kartaa ma jirto xitaa dhalinyarada meesha joogtay aalada irida taagneed oo baray wuxuu yidhi wiilkan waa wiilkeygii haddii ay beeshan aan ka dhalanay uu sababsado idinkaa idin haystaa marka odaygaas daraaddiisay bannaanka ugu mareen mar dambe cabdirasaaq meel walbuu mari jiray kadib markuu iridda u sheegay ilaan wuxuu deganaa iftin agteedu deganaa marka wuxuu dha wiilku uu soo baxayaa cid taaba kartaana ma jirto okaan cabdirasaaq xirsi xasan muxuu ahaa bajarteen waa tiri ninkaas lama taabanaa tiri sooma lama dil cid ma taaban marka cabdirasaaq ayuu maalintaas soo weeraray cabdirasaaq markii rasaas ku dhacday cabdirasaaq waataa intaan lacag u aruurinay cabdirasaaq ilaa iyo waxaan keennay meel la yidhaahdo kenya diyaarada loo saaray kenya cabdirasaaq hadda manooli marka cabdirasaaq xasan dhibkaas markuu dhacay uma jarteenka manooliya cabdirasaaq xasankaas dhib ku dhacay manooli hadda niyo ninkii inuu hadda joogo waxaan ku maqlay finland allahu aclam laakiin waa raadinaa cabdirasaaqaas waa markii waa wiilkaas oo ma jarteen waa ninkii dhibka oo wariyahayaasha kamid ahaa dhibkana dhex taagan maalinta riskigaas dhacay soo ma riskiga dhacaya marka cabdirasaaq asaga ilaah ka badbaashay wuu baxay gabar kaleentood oo shacni cabdi boodha la yidhaha iyadana barnaamij soo saaray ahaan jirtay iyadana barnaamijyada wax ka aqrin jirtay ayadana saasoo kale beesha ogaadin u dhalatay iyadana saasoo kale oo waxba aan ka ogeynoo hadda inay kanada joogtaan maqlay maakaan inay maqlays caawa inay dhimatay gabadhaas ayadana saasoo kale gabadhaas ku cel magaceeda shacni cabdi boodhle shacni barnaamijkeesa ma jirta barnaamijka bandhiga raadiyaha iyo barnaamijka waxbarashada barnaamijyo badan ay ku jiri jirtay yee ahayd marka iyada khamiiskeedu ogaadeen ahayd si fiican ogaadeenayd ayadana maalin kas waa taagneed way taagneed xitaa wuxuu isku dayey iyadii oo stuudiyaha ku jirto inuu yidhaahdo halay soo saaro su-aalaan weydiinaya war gabar waayo gabartaan su-aal weydiin maysidii raggii hore meeshaas ka bixisaa ka bixi rabtaa oradoo naga tagaa lagu yidhi okay war labada ku noqonaa su-aalahan mar labad kugu celin cabdisalaanow waxaan rabaa laba arrimoodba inaad isqabadsiiso haddana kaa rabaa horta mar waxaan rabaa cabdisalaanow ninkii inta wax dilay oo 5 qofood dilay 4 qofood dilay oo uu dilay cabdisheekh oo dilay abubakar wariye oo dilay maxamed aadan oo dilay maxamuud cali xaange afarta oo soo dilo ayuu haddana meesha joogay oo uu shaqaynaya marka sababtaas mar labaad dadku sharax waa igida diglaada xoogaay okay markuu afartaas dilay ayaa haddana waxaa soo galay cabdirasaaq xirsi xasan iyo shacni
هي عبد الرزاق إيه شعني وكجران أو لقى علي لا يعني عن سوق لمرك لبي طبعا دور نمية لح ساعة مالي ما أنا سوق لمرك شعني قبل أوغادين يا عبد الرزاق شعني أوغادينه يا عبد الرزاق حرسي حسن ومجرتين قبل لي علاها أصف شد أفرنا والله ما أعرف أنا كده صو أصلا markaas wuxuu taagan ilaa hadii ugu soo wareejiyay labadaas qof marka cadeentaba inuu waxa asaga ka dambeeyay taas cadeynaysa because dadka markaasiyaasha waagaas joogay war maxaa ka rabtaa dadkan u beegsanaysaa mayo wareysiga ka soo qaada wareysiga ka qaadis waa maxay macna waa dilaysa Soomaaliya rag hore dad badan hadda afar qof lagu tuuma niyo taakeeyo ka leex shaqaalaha noo dhaaf intaas marka lagu barbariyay marka lagu duubay meesha admeedkood ugu tagtay ma xasuusan tahay meesha ay si fiican u tilmaan hadda idaacada TV raadi Muqdisho ku dhageysanayaan wariyaasha raadi Muqdisho dadka mid inay nool yihiin laga yaabaa meesha cabir tilmaan adoo tilmaamay meesha islee ahayd halkay ku tilay leelabteed waxaan inaan xasuus ka qaadano بريار نصورين لا يقعد ماشي تحسسه ونوشك markii aad wasaaradda wafaafinta ganjeel kada tagatay ها midig waxa waay midig iyo bidix waay bidix waxa qaybta raadiyaha waay midigna qaybta wasaaradda waa malaas bidix wasaaradda sabab iwad haya yaa ku dhagelina haya wasaaradda waxa ka soo horjeedo taliska ciidanka booliiska si toos labada ganjeel isku beegan dhinaca midigta waxa ku taalo maqaayad yar oo laga qaxweyn jiray inaad taqaan kala magac xasuus waa gart oo wasaaradda wafaafinta ka tirsan dhinaca midigta ganjeel ku dhagan ganjeelkaas waa musawici iyo xafiisadiisii waaye waa sax waa sar guri waaye sarti musawica ku dhagan oo dheer marka barxadiisii geedaha ka babaxayay oo markaasi malaha lama gurin ilaa dawladdu way dhacday barxadaas oo ayay yaaleen 40 nin oo barxadii soo dhigay marka meydka laga soo baxshay ayadoo laga soo baxshay maatay mase meeshii barxadaha lagu dilaa adii tilmaamay ma meeshuu ku dilay ayaa tagnay markii asagii oo mataqaana meeshii ka cararay mooryaantii meeshii ka tagtay waan galnay shaqaalihii oo dhan meeshii yaalyaaleen 40 oo isgarab yaaleen saasayna mataqaana faataxada ugu marnay in yar kadib waatu intay gaari ku qaadeen haddana waxaa maqalnay raggii waxay yaalaan wadada warshada oo meydkii waxaa kaga dareeb sida loo aasba meelinba la ilaaha illa allah wadada warshada lagu tuuray kadib markii dadkii eheladu ugu daba tageen nin kastoo meydkiisa iyo dadka qaraabadiisa meesha ka qaateen qarna dadka xaafadda iska duugaba ma fahamtay caawa haddii markhaatiyaal haddii lagaa weydiiyo oo cadaalad ay timaado diyaar oo u tahay inay cadaaladda qayb kala qaadato oo dadka Soomaaliyeed ee xasuuqaas loo geystay ee shaqaalaha dawladda ahaa ee sharci darrada ahaa walow dagaal sokay waddanku jiray oo cid dhaafay aysan jirin haddana tan waxay ka mid tahay markhaatigii nool oo maanta wax laga weydiinayo dadka aad sheegto hadda aan inoo tixday gabadha la yidhaahdo shacni wiilka la yidhahdo cabdisaaq xirsi xasan dadka aad hadda labadaas waa labada beelii la ugaarsanaya labada ka mida laakiin nool oo ka fakaday marxaladaasan goobjoog ka ah waddanka dibaddiisa ku dhaqan dalka gudihiisa raadi Muqdisho hadda wax ka shaqeeya ood og tahay oo dadkaas ka mid aha maalinkaas dhacdadaas foosh xun joogay haddii mar labaad aan xuso karto si aan caalamka aan kula qaybsano ninkaan uu yahay nin gacan ku dhiilaha dadka Soomaaliyeed baabiyey haddii wasiirkii gacmo dheere iyo dadkiis ku soo baxay dadka hadda nool haddaad dib u qooraansato adigoo maasan horta waa runta horta rag hadda meesha ka shaqeeyo wasaaradda wafaafinta ka shaqeeyo u maleemayo inay waagaasi ay shaqaale wasaaradda ahaan jireen inta badan waa dhalinyar hadda kusoo biirtay meesha raggii waagaas shaqayn jiray waa la yaqaanaa intaas way joogtay waxaa si fiican xitaa warbixinta u dhiibi karo maxamed xasan cali weji oo hadda hargeysa ku nool oo aan maqalin oo dhintay odagaas xitaa wuu joogay meesha uu ahaa okay marka rag noocaas way joogeen oo dadka hore ah marka haddii ay xaqiiqad ka sheegayaan way joogeen laakiin qofka waxaa fiican inuu labadiisi mitir oo ilaashado oo wuxuu goobjoog ah haddii hooyadiis ay dhashay xitaa hadduu dembi galin oo dhowrno ninkaas dembigan wuu galay laakiin ka toobakeenka ilaaha iskale magta iyo in la kala qaatana way shareecada islaamka way qabtaa laakiin inuu asaga ershaynta naqdo uu karto waa mid aad iyo aad u fiican hadda waa uu joogiyaa ninkan baraha bulshada ka hadla halkaas noo dhig warar badan oo isdaba marsan ayaan ka qabanay oo war ahaa mar xataa inuu 15 jiraan ahaa uu yidhi markii dambe uu qatay inuu shaqaalaha dawladda ahaa labada muuqaal buu hayaa caawa oo labada muuqaal buu haynaa laakiin waxaan rabaa inaan dib u qooraansano dadkii goobjoogka ah waata aad xustay laakiin
arrintaan rabo waxay tahay haddii dadka Soomaaliyeed ee waagaas goobjoogga ahaa wasiir gacmo dheer oo ka mid yahay wasiir gacmo dheer shaqo laakiin oo wasiir ayuu ku ahaatay wasaaradda laakiin waxaa jiray wasiirkaas ma ka horreeyay mise waa ka dambeeyey maxamed carab falax oo ah wariye ka mid a marka wariyahaas goormo ah wasiir وسوق الدسام محمد عرب فلح مركي او ماشي اقاسمه كاها محمد عرب فلح وزير ما كنا ماشي ما هلا ياسين حاج اسماعيل جردي هلا ياسين حاج اسماعيل جردي مركي او وزير كاها وحي اهد دولدي كعانك اهد مركي اي بحدنا وزير كوادو نقد وزارده waxaa noqday gacmo dheer soo markii dowladii kacaanka ay dhacday waxa meesha la wareegay nin ila gacmo dheer ninka ugu horeeyay loo magacaabo gacmo dheer okay waa maasan tahay waxaan rabnaa bal adigoo maasan waqti dheer aan ku gelnay wareys dheer aan gelnay bal waxaan rabnaa inaan sheekooyin yar isla qaybsano wareysiyadan u bixiyay aan rabnaa inaan qayb kamid ah aan isla daawano anaa wax ka dhahno insha Allah su'aal ka weydiiyo Allah iguna jir adigoo aad u maasan yaan Sheekh Ahmed maahan markii ugu horeysay oo shaashada ka soo muuqdo wareysiyo kala duwan ayaan dabcan anagu la yeelanay dad kalena ay la yeesheen muddooyinkii u dambeeyay Sufyaan waxa baraha bulshada iyo warbaahinta uu ka soo muuqday isaga iyo afar dumar ah oo xaasaskiisa ah filcilin kala duwan ayaa ka dhalatay dadka qaar ayaa waxa ay soo bandhigeen eedo waaweyn oo ay u jeedinayaan ama ay ku eedeynayaan Sufyaan waxaan weydiin doonaa Sufyaan eedahaasi iyo waxyaabaha ka jira ayaan wax ka weydiin doonaa si bal dadka horay u bartay Sufyaan ay wax uga ogaadaan in bal dambiyada hadda dadka qaar ay ku soo oogeen ama ay ku soo eedayeen ay yihiin kuwa xaqiiq ah ama dhab ah Sufyaan mar kale soo dhow baan ku leeyahay waxa weeye waxay noo tahay fursad in aan wareysi kula yeelano أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله سفيان مقعن سفيان هرب مو تقين ما مقعن ما تقين وعلي جري محمد عبد الله هبلكا تاكي بس احمد نوع بحسس مقله اوكي يكاد مرك واكون مغنى هذا ليس قيبك من قادنا ان شاء الله وانا وقتك كوغو ديرين ان شاء الله واصحابي هم تبعون باحسان والمدين وريالك عسى مركله كلنت سدحاد aan dhaho ma maasantahay SSTV waa salaamay aad waa maasantahay anagana dabcan oo ku soo dhaweynaa markale wareysigeena dhowr arrimood buu daaran yahay waxaan ku horeynaynaa ugu horeyn Sufyaanow xageed ku dhalatay cadaada ku dhalatay sanadka baasaboorkii ku qoran mar raba hadda bulshada inaan la wadaago waa tahay aad waa maasantahay waxaan filayaa xalay waxa la soo qoray qoraal oo nin wariyaha oo Soomaaliya jooga soo qoray oo ku aadan in Sufyaan uu yahay dambiile oo uu dad laayay inta aynan u gudo gelin inaad dambiile tahay iyo in kale ugu horeyn 1991 xagee joogtay waxaan rabaa marka hore waxaan salaamayaa shacabka Soomaaliyeed dhamaantoodba meel kasta oo joogaan waxa aan rabaa inaan soo gaabiyo waxaan salaamayaa bahda tala ku nool iyo taageerayaasha tala ku nool kulligood waa salaamantiin aniga waxa xaqiiqa magaca taake la yiraahdo oo lagu yiri waa bedelay waa Naynaas waa magacayga ma bedelin Naynaas tu hada nin weyn oo odayo Naynaastiisa ay daba socotana dadku ayaga ka gudba ma ahaanay ilaa hadda magaaladan aan joogaa taake la igu yeeraa magac la bedelo ma magacayguna weligay taake ma ahayn magaca hooyaday abahay la bixin taake waa Naynaas taake waa Naynaas bulshada dhexdeeda aan ka helay oo marka dhalinyaro tahay lagu bixiyo kadibna aad ku gudubtid waxa kale xaqiiqo in wariye ahaan jiray waxa xaqiiqo in raadi muqdisho ka soo shaqeeyay intaas oo xaqiiqo waa tahay ma inkiraysid intaaba no absolutely waa wax jira okay wareysigan uu sheegayo hadda xalay wareysiga maanta sii daayay kii xalay uu sii daayay oo kaliis oo Facebook live soo galno wuxuu ku cadeynay inuu shaqaalaha dawladda uu soo waligiis noqon shay tawjiraha marka waa iska caday adigu marka xusuustaada saa u fahamto wajigiis inuu asiga taakeeya inaan sidoo soo kor ku dimis absalaan marka aragto horta ninka wax iska bedelay waa cirrada maana ninka waa ninkii codkiisa ya taakeera qawle يا شكا مقلة هي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ونولشيده waa tahay xilligaasi 1991 ayaa la yiri wariyada ahayd radio muqdisho ka shaqeyn jirtay waa xilliga waxaan filayaa Soomaaliya burburka ay cagaha la gashay dagaalada baan ay socday marka
taakeeye waa naanays aad lahaan jirtay sida la sheegayna waa sax somo ya taakeeye naanays waaye laakiin magacaan bedela magacayga weligay ma ahayn magacaaga ma ahayn laakiin macnaha naanays bahayd okay laftirkooda waxaa laga yaabaa in dee magaca maysan dhihin waa kii rasmiga ahaa iyo waa naanays midaan lama dhihin macnaha magaca in lagu oran jiray unbay sheegeen waana runtaas iyada waxba kama taagna dood ah soo maha absolutely wax doodo taakeeye in naanaystayda ay ahayd waxba kama taagna dadka hadda jooga dad badanaa ilaa hadda iigu yeera haddii la iigu yeero waa okay waa ka jawaaba su-aasha ama waa ajiiba marka taakeeye wax aan bedelay maaha magacna maaha waata ani markii ugu horeysay ba xalay ahayd in arko magaca taakeeye war waa maasan yahay ninkan wariyaha su-aasha uu ku waxaan cabsalan adigu diyaar muu tahay inuu hadda haddii uu kula doodo dhacdaanka uu kaala doodo taakeeye inaad kaga jawaabto dood furan dhabadiina dhex marto aad ku caddayso eedamahan aad ku eedaynayso inuu geystay dad intaas la eg tiradoodu oo Soomaaliyeed oo shaqaale dawladda uu xasuuqay oo beelaha Soomaali ka kooban yihiin oo ka mid yahay marxuun Allah u naxariistay عبد الشيخ وها باش كسو جيد باش عرب محمد صالح يا ابو كرولي او باش شيقال يا مهد ادن او ها مهد ادن حسن او ها باش اوغادين يا محمد علي حانجي او ها باش مجرتين يو ان عبد القادر علي اللي او ها باش حواله انت سقفوت سي غعنتيس ku maqan tahay in marka hadii uu caawo doodkaaga la qayb galo ama maxkamad la soo istaajiyo waxa mar labaad aad leedahay ku cadeena inaad hortiisa ka cadeynayso ilaahayna kugu og yahay oo adan beenka abuur aad ka sameynaynin maxaa waay kan ninkaan hadii uu gacan ku dhigliyaas yahay waxa qatar ku sugan shacabka Soomaaliyeed wadana nool yahay waxa uu leeyahay haween Soomaaliyeed guri qurxoon buu leeyahay ilmo qurxoon buu leeyahay shakhsi markii gacan ku dhiglaa inuu nolol samaysto dad Soomaaliyeed oo aan dambi gelinna oo asaga sababtiisa u noqdo waa wax laga fiican yahay qalbiga bini'aadamku qaadan maayo laakiin xeer iyo nidaam la maray ayaa jirta waddanka foodo ahaa xasuuq badan baa jiray dad badan baa la xasuuqay asagoo afar buu xasuuqsan sheegin ama shan qofood laakiin tiradu way ka baahan tahay dad badan oo sirtaraan Soomaaliyeed ay kumanaan qof boqolaal qofood in baabiyay marka in arintu soo tarayso waxa arkaysaa in hadda qiraal badan oo sidii hore dadka isu muujinay si aan ahayn meesha ka muuqato marka maxaa ku kalifi karaa isleedahay adigu diyaar muu tahay mar kale anuu kugu sicilnaa inaad la doodo ku cadayso say tahayna aad hadday tahay mid adduun mid aqraba labada codkaada baxso adiga ku cadeyna wixii falkii aad goobjoog kahayd اوكي هذا ما سنتهي نيو ديد هذا ما سنتهي برنامج كاغان ان اديات ان عاوا ان جعلان لها ان متقانا ku cadeeyo oo inaan ku cadeeyo aan u soo fariistay oo aan rabo because aniga 2 mitir ay sugayso waxaan marqaati ka ahaa ciyaal aan waarid u ahaa oo yar yar oo adeer aan u ahaa aabiyaashood lagu dilay oo maanta aniga aan nool inaan qariyo xaraam qadcan way raggaasi waxaan walaalo ku noqonay meeshaas iyo mihnadaas aan wada shaqaynaynay ciyaalkaas yarka oo agoonta uu ka dhigayna xanuunkeeda weli wuu hayaa marna ma iloobin raggaas oo salaad kasta aan dukado dadkii asxaabta ahaa dhalinyarada aan wada shaqayn jirno meesha ku dhimata Allah u naxariis markasta waa dhahaa qaasatan ninka maxamed cali xangal yiraahdo oo aan ceesh wadaag ahayn oo guri ila deganaa ayaan ku tuhmaa ninkaas gacantiisa inuu ku dilay marka dood iyo meel kasta oo la isugu imaanayo haddaan noolahay taakay waa ku marqaad furaa biid milaal kalima haddaan noolahay inaad gacan ka siiso dadkii eheladu carruurtii ka tageen carruur waaweyn hadda oo dad waaweyn anaga nala eega marka inaad la qaybsato aabahood ninkii dilay inaad la qaybsato marqaati cad ugu noqoto oo tiraahdo maal hiblaayo waqti hebel saacaday dileen hadda waxaad noo sheegtay 8 ama 9 abriil inay ahayd 1990 markii dadka 5 qofood oo ka kooban oo Soomaali dhan ah oo aan dhiikan hal qabiil dhiikan Soomaali dhan waa ama hawiye ma dal cid rabtaa hada dhammaan dadka Soomaaliyeed ka kooban oo shaqaale dawladda dalka Soomaali u shaqeynaayo oo waxba ka galabsan waxba ka sameyn xasuuq baan ugu geystay xaruntii ka shaqeynaa wasaaradda warfaafinta gudaheeda lagu dilay laakiin waxaan rabaa calaamadii hadda ma la heli karaa rasaasta meesha uu ku riday calaamadii qayb ka mid ah marqaatiyaasha noqonayaan ma la heli karaa meesha uu rasaas ku dhuftay oo ka baxday macnaha ilaa markii qofta la dilo waa arta Soomaalida waxbad inta ka baxday darbigaana gashay ma arkaysaa ninkii waxbadda ku riday habel inta ku dilay meesha asaga hadaad caawaan lagu geeyo 30 sano kugu dambeysay haddii lagu geeyo meesha waa tilmaami kartaa Soomaa oo hay'adaha amnigu tusaalahan arrintan ay casuumaad kaaga fidiyaan si arrintan loo baaro ha haddii tilmaan ay ku fahmi karaan markay ganjeelkaas ka soo baxaan oo booliiska ama ay wasaaradda warfaafinta ka baxaan gacanta midigta ah meesha musawca uu ku yaalay galayaan barxadda gudaha waa marka ganjeelka ay galaan meesha barxadda ayay yaaleen 4 nin
عبد القادر علي إيدن تاس مرقاتية لهاد بوامل يريد وزارة برحد لو قلت لي مثلا قلب قديس مصوع قديس ما برحد مرك يريد لا سوق قلب اسلام مرك يريد يالين مرك غدها لا سوق قلب صدح ماشي يالين واي لكن ماشي اللي قلت لي مر لبا لا قيبسنو هذا كان سبعون فبسنو ماشي اللي قلت لي ما برحد الا برحد حبدي بوليسكا باركي لها بوليسكا عيدك بوليسكا ماشي ورديكا دين موضه واركي لها هنا اللي قلت لي مرك ما برحد سبع مقاح ما جنجال كو سو خرما مرك غدها لا قلو جنجال كو سو خرما وارد بحد وين واي سر دبق يريد marka laga galo mustawaa raadiyo dhulka hoos loo galay meesha ku taala lafta ciidanka kamid ah waardiyan kamid ah xilliga dawladda jirtay dhowr mar 84 mar shaqo mid waardiyan ka noqday dhowr mar aan shaqo booliiska marka waxaan xasuustaa dhinaca kale laamiga kamera marka waxaan rabaa bal inaad sawir guud naga siiso albaabkan ka soo galay midiga uu leexdaa tiri mustawiya ku yaala oo ku yaala ma meesha barxada oo officialka mas waa gudaha dambe hoos loo galaa ماشي يريد مرك laga galo ganjaalku waa soo xirmaysa marka gudaha ay galaan ganjaalku waa soo xirtay ma fahamtay waa gartay marka ganjaalka la soo xiro maxaa soo haray meel yar oo barxada oo daarada daaradaasi meedka yaaleen dilku waa ka horeeyay meedka meesha laakiin meesha ku dil ma xusuntahay ما إسلام ماشي لوا صوب ماشي لو كدير صوبته ماشي قفك مركو ديق لسو جيد أما ديق لسو قاضي دتك ديق بحول ولا أكله ماشي إنه كوسو درير سما ديق جوري ماشي رغدي نحجي فيه بكوس نكس ديق جيزو نحجي سبحان الله العسل وحنا مر لما إلى أبغض دتك ورياشة إلى دتك حسان أبغانا ورياشي ويجس جوجي أو فكذا كمية الشعن أبو بكر قبل اللي عبد الغادي حرسي حسن أو بجرتين الشعن أوجادينا marka waxaan rabaa mar labaad bal inaa xasuus dadka ayaga bal wacdo macnaha aad magacyadii kala xasuusan karto aad la qaybstaan rabaa dadka Soomaaliyeed ayagoon inay ku dhageystaan laga yaabo wariyaashii xilligaas raadi Muqdisho ka shaqeynay balse waagas lafteedu waxaa joogay Cabdiqaadir Colombo waxaa joogay maaragtay ii sheeg oo ka shaqeynay raadi Muqdisho iyo walaalkiis maxaa la yiraahdaa Dinari maalmahaas raadiga kama shaqeynay xilligaas maalmahaas tusaale ahaan Dinari wuxuu ahaa wariyaha madaxweynuhu ahaa markaas علي مهدي كولومبو وجوجي لكن مركاسي إنه ودن كمركا إنه ما أنتش جوجي كلام قال لك ودن وجوجي وبرنامج سبورتي وحوك كسرائي لكن عبد الشيخ دون نجيه أيام خلر كقبصدي أو ماش لقلي أو لدق عالمي أو مالحون كالجارين عبد الشيخ دون نجيه قص عمك دم كسو جار عبد الشيخ دون نجيه قص إنه نولي أنجنا عبد الشيخ دون نجيه إنه جيران جعله عبد الشيخ دون ونولي اوكي افعال marka ninkaas waxaan rabaa ninka ay qoranta Elin Diyaale waa runta saaxib meedka ninka wuxuu leeyahay nin commentiga raal la waqna ninkan dhahaya Elin Diyaale ninka waa nin beelo sababta uu ku leeyahay saddex wariye waxa lagu dilay raadiyo gudiis waxaan lagu dilay warshad sigaarkii taraq laguma dilay raadiyo gudiis ku leeyahay marka u jawaabtaas wuxuu ku leeyahay warshad sigaar taraq lagu dilay laguma dilay raadiyo gudiis نينا ساسو قراي أو سجنا جوجا. وشد زار في طرق وال ماشى لو قدادي ميت كان لو قدادي وهرا وشكت وكعما ساد الصقري ميت كان لو قدادي مرك ميت كسر لو قلت مرك لما واسمه ميت ماشى لو طورة ماشى لو طورة كدب إهلدي أركان وحنا طورة مليشيات نيكا عيد كيسة قاضي معنا بيش وكسو جده وورديك إتراديا جيا كواسا قاضي اوكي بل waxaan rabaa markaan bal wareysi kale su'aalaha kamid ayaan rabnaa inaan bal aan dhex galno qaybo kamid oo su'aasha laga weydiinayo oo uu wariyuhu ka weydiinayo waxaan jeclaa bal markaan inaan bal su'aashan bal weydiino bal aan arno bal aan sawir qaybsan insha Allah groupkan tan ku nool gudoomiyaha ay arinta calanka waxaan soo marnay marxalado badan oo kala duwan waxaan soo marnay markii uu horeysay ku bilowday caytin oo la yiraahdo shakhsiyan aniga la yiraahdo waa ninkan waa gaal weeye وسرنكا سو adeegsaday wuxuu duminaya qaranka Soomaaliya iyo waxyaabo noocaasa arintii dhow ma dhigin si u socotay waa baabaad waxa ku xigtay haddana in la yiraahdo ninkan waa al-shabaab ilaa sawirkaygii la dhaxgaliyo nimankii al-shabaab sawirkooda la qaaday kayga lagu dhaxgaliyo waa soo socotay waxa timid haddana in la yiraahdo oo qisadiisa u soo socotay aniga shakhsiyan la yacabsiyo oo la yiraahdo ku dilina oo macnaha telefoon la isoo diro message la isoo qoro intaas oo dhan soo mar waxa timid markii aan message-kii bulshadii ay qaadatay oo calankii bulshadii fahamtay oo la gartay oo macnaha ay noqotay ilaa masaajidada in looga sheekaysto dadaan ay aqoon ay soo wacaan taageerada bixinta arintii calankana la qaatay oo dadkii Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed ay fahmeen
waxa ka dambeeya calankan iyo gumaysigii siduu noo siray iyo gebi ahaanba hadafka kooxda tala ku nool ay leedahay oo runtii ka soo horjeeda waxyaabo badan oo hadda nidaamka aanaysan oo ku dhisan yahay waxaa dhacday in markaas loo ii isticmaalo meel isle waa ka jilicsan yahay oo ah in la buunbuuniyo arrin diini ah dadka qaarkiisna ayba ka hor yimaadaan oo ay ku macnaa diinta uga baxaan arrintaas diiniga ah oo ahayd in xaasiskayga aan banaanka soo dhigay anoo ujeedadoodu ay ahayd inaan ku taageero siyaasadda anigaan aaminsanahay waa siyaasadda islaamka arrintaasi markay sidaa u dhacday waxaa ka damid middan intaysan arrintan dhicin waa la isoo wacay waxaa la ii sheegay hay-adda ka dambaysa waxaa la ii sheegay dadka shaqada la raba in la geliyo iyo qaabka shaqada u dhacayso waxaa ka dambaysa hay-ad talyaaniya hay-addii qortay dastuurka maanta yaalla oo annagu aan ka soo horjeedno annaga saad ogtaaba ama noogu qoran hadafkeena waxaan rabnaa dastuurkan maanta yaalla in lagu bedelo dastuurka islaamiga dastuurka islaamiga means kitaabka jaamaca in lagu bedelo oon ku dhaqanno asaga waxaan rabnaa oon u ololeynaa dadka labada baasaboor wata inaysan waddanka waxila ka qaban ee qofka Soomaaliga aan weligiis banaanka uga bixin ama xataa hadduu banaanka uga baxay baasaboor kale aan wadanin u dhaaran dawlad kaleeto u dhaaran shakhsi kaleeto ka qaybgelin hay-ad kaleeto ama ciidamo kaleeto aan qaban inuu xilka waddanka qabto waana sida kaliya ee waddanka Soomaaliya lagu badbaadin karo waa tahay aad u maasantahay waa tahay waxaa tiri hay-ad ba ka dambaysa waa hay-ad talyaaniha waa tii aad lahayd macnaha calankan talyaani baa sameeyey Soomaali ma samaysanin absolutely maxay marka tahay sababta hadda adiga lagugu adeegsanayo sida aad sheegayso dad hay-adaasi ay dabada ka riixayso ma calankan hadda adigu aad lahayd hala bedele Soomaaliya uu leeyahay baa rabaan in maartay uu Soomaaliya sii haysato maadaama iyagu ay sameeyeen mise wax kale ayaa jiray oo idinka iyo iyaga isku haysan well calanka kaliya maaha annaga waxyaabaha aan u taaganahay sideed qodob ugu waaweyn oo tan ku nool taaganta waxaa ku jira kow in la bedelo dastuurka islaamiga aan qaadano kitaabka jaamaca way ka soo horjeedaa waddanka talyaaniga maxay kula tahay cabdisalaam ninka wuxuu sheeganaa in wax lagu maaga ay tahay isagoo diin fidinaya in waxa lagu maaga ay tahay arrintan uu ka hadlay oo ah inuu ka hadlay arrin diiniyana in lagu maagaayo mabaadi uu aaminsan yahay in laba milyan loo sheegay in aanu waxba ka jirin inuu wax dilay adigu naad waxaad ku marqaad furaysaa ood leedahay aqiree duunana laga weydiina ninkaan inuu sababtiis lahaa maxay adiga kula tahay sababtaas maxay adiga kula tahay arrintaas oo aad leedahay say adiga kula tahay warkaan uu sheegayo horta xaqiiqatan ninkani waa kiis iska waan maqlayso qofkaas kiisku iska waalaya ha ninkan dambiye fara badan oo waddanka ka galay wuu cararay dhiigga dadka ma qarsoomo meelihii uu tegey waa laga soo tarxiilay hadda Afrika ku sugan yahay ninkani marka wuxuu rabaa sidee bulshada ay waji kale kuuga baran lahaayeen nin calan u dooday miyaa tahay marka si ummadii uu wuxuu rabaa waji kale uu siiyo uu yiraahdo hay-addaas ay ugu soo dirto haddii adiga aad qabsatid cawada adiga diidda oo aan weliga arag haddaad qabsatid wuxuu ku leeyahay hay-addii sootii aan idiin sheegay aniga mar hore aan idiin sheegay hay-addaas in dad soo dirayso marka shabado ayuu dad ku dhejinayaa laakiin ninkani marnaba kama harayso hay-adna mataqaanaa Soomaaliya ma xukunto hay-ad talyaani iska dhaafay mid ruushana waddanka xukumay iyo Maraykan ka xoog badan ninkani intan waa kiis iska waa caruurtaas uu agoonta ka dhigaya maanta soo qaan gaarto oo meel walba maxkamad kasta ka furayso dibad iyo gudaba marka haddii ilmahaas dacwo ku furan wuxuu rabaa inuu dhaho mabda'ayga laga soo horjeeda marka waa wax waa mabda uu hadda sameysanayo waa mafahanta uu rabo waa jarjaro ku gabanaan leedahay ka qaybgala ka mid ah barnaamijka wuxuu soo qoraa Cabdiqaadir Cali Iile waxa lagu dilo ku leeyahay wasaaradda warfaafinta jaranjarada laga fuuro dabaqa labaad jaranjar laga fuuro ayuu Cabdiqaadir Cali Iile ku dilay adigu horta ma aadan joogin laakiin markii dilku dhacay kadib waa timid arrintaas waxa ka xaqiijin kartaa ka qaybgala ka mid ah barnaamijka ku soo qor meesha Cabdiqaadir Allah yarxam markuu meesha ku dhintay waxa jaranjarta hoosteeda ayaa la dhigay meedkiis maahan meesha kuma dhiman ma fahantay اوكي جرجر تسلي اوكي مركز وها الله يعز وما سين علم دي وكما سين نك وقرنتا يا العلم دي نك وقرنتا ادي هذا ما سنده ادي رون انتي arrintan waa arrin dadka Soomaaliyeed dareenkooda aad u kicisay ninkaanuna waxa la yiri Soomaalidu waxay tiraahdaa ama duunyada ka jirta qof dhiig gashay hadduu asaga sheego jiran sheego waana wax iska cad inaan dhiig ku qarsoomin maanta ay xaqa ninkaan banaanka yimid إلهي با عدالة لكن تنوى مد تذكي ورياشها أو ولكن وكميداي وهذا وور
cabdisalaan uu arrintaa nooga sharxay noo bilaabay noo iftiimay isa u dhaceen isagoo weliba saaxiibkiis habeenka la jirtay subaxeedii uu dilay la dilay oo aad iyo aad ugu cado waxaan rabnaa marka caddaymahaasoo dhan hay'adaha ammaanka haddii loogaga baahdo haddii cid kale u baahato haddii ehelad u baahdaan haddii carruurtii ay dhaleen u baahdaan inaad u cadday kartid warka waxaan jecelnahay bal inaad dadkaasoo dhan haddii ay kuu baahdaan xiriirka ay kula soo samayn karaan iyo haddii aan samayn karno inaan adiga xiriirkaada iyo taleefonkaada aan siino inaad ogolaasho noo siiso ayadoo shacabka Soomaaliya marqaati ka yihiin waxaan jeclahay inaan gabagabada barnaamijka kusoo gabagabeeyo su-aashaas waa ku mahadsan tahay jidi adigii barnaamijka iyo daawadayaasha barnaamijka Soomaali Wadani TV mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad markaana ma ahayn markii ugu horreysay oo barnaamij aan ka qayb galo horta wax allaale iyo inta aniga ogaa waan sheegay hadduu la yiraahdo maalinta qiyaamaha waa lii soo fariisin doonaa oo cid bini aadan ku xadgudbaayo ama hay'ad qof ii soo dirsato itiri qofkaas propaganda ku furna ma ii shahaad zuurna ma ii ninkanna ciyaalkaas aan adeerka u ahay oo aan waaridka u ahay aqoonta uu ka dhigay oo 30 sano la soo difaacayay problemyada ayaan mataqaanaa marka hore u tacsiinay iyo hooyooyinkii dhalay iyo eheladoodii iyo qaraabadoodii ciyaalkaas yararka ah xaqoodii waa in la siiyaa haddii dowladda siinayso haddii asaga ninkan familkiisa siinayaan iyo haddii asaga markaas loo xukumayo marka intaba waa mataqaanaa la taagnaan doonaa taleefankayga waa la sii karaa waa soo siin kartaa haddii ku soo wacaan haddii kula soo xiriiraan inta aan noolahay aniga baan ma sheegay haddii hooyaday ay qof dhashay ay dembi gasho haddaan markaas aan ka ag dhawaa niyo waa gashay ama diyo bixi ama mataqaanaa madaxaaga gee meesha waa dhahay laakiin sheekada dilkan ka qaybgala barnaamijka wuxuu leeyahay oo comment soo qoray doon yaara dad lagu dilay dartood oo afgoagteeda dad familkiisa oo ninkan lagu dilay ayuu argoonay argosaasa ayuu waday arrintaas raadkeeda wax ma ka haysaa ta kale oo rabo waxay tahay cabdisalaan waxaa laga dadka qaarkood inay u macnaystaan inaad ku beel tahay ood beel ahaan kasoo horjeedo asaga ama beela soomaaliyada kaloo mucaaradku ah beesha ninkaanu ka dhashay marka waxaan rabnaa ama dadkan dhintay oo la laayay inaad ku beeltiin dadka qaarkood ay fahmayaan dadkan waa dad beelo kala duwan Soomaaliyeed marka ciidana waxaan rabnaa labada su'aalood inaad caddayso adigoo maas horta waa run dadka inta badan waagaas waa la isla dhex marayay raggaas ayaa soo rogaal celiyeen nin korneel ahaa oo liider doonyaal ayaa la dilay marka cara ka timid ayuu waxaan u sameeyay ninkan wuu cariisnaa dad weyso isla markaas meesha waa run waa ka yeerta hadalkaas laakiin taasi dagaalkaasi dhacay hadduu asaga markaas dagaalka xiiso ku haya ama uu rabay uu aadi kara afgooyay meelihii dagaalada ka dhacay laakiin aniga ragga dhintay haddii la yiraahdo beel aniga rag walaaliba meel iga wada shaqeynayaan laakiin haddii beel ahaan la yiraahdo taakee hab ii dhow taakee ayaan ii dhow hawiye isla naxmi faati waxa sabab aan mataqaanaa aan ugu eexanayna ma lahan sabab waxaan asaga aan ugu eexanayna ma laha sabab aan kuwa kale ugu eexanayna ma laha laakiin anigu sideeda waxaan ahay dhexdhexaad maalinta qiyaamaha la weydiin doono intaan arkay inaan sheego isku beel lama tidin dadka la dilay isku beel ma nihin waxaan isku beelnahay oo haddii la yiraahdo hawiye aan isku nahay taakee aad hawiye isku tiid yacni dadkii goobjoogga hawiyaha tahay oo ay weliba maganta u ahaayeen dadkan la joogay oo ninka saaxiibka ahaa gacantiisa maxamed cali xaange oo aad saaxiibo gaar ahaydeenba waa horta kaga tacsiinay dartaada waa arrin foolxumo leh waa arrin qalbigeena runtii haddii nin xal kula socda saaka soo meyda aad dul istaagtay wallahi waxaa wax maskaxda bini'aadamka aad maaragtay ka yeeray marka mar labaad ee dadka qaarkood codsanaya magacyada dadkii meesha wariyaasha lagu dilay waa cabdisheekh oo la dhihi jira carab la dhihi jira oo wariye ka mid ah raadiyo muqdisho abuukar iyo abuukar wariye oo ah xasan sheeqaal iyo mahad aadan oo ahaa qabiilku u dhashay ogaadeen raalaad qabiiladan sheegayno maaha laakiin ujeedada ka tahay in dadka la waado waxaan kaloo halkan sheegayna waxay tahay maxamed cali xaange oo ahaa majeerteen iyo cabdiqaadir cali iidle oo ahaa xawaadle intaas waxay ahaayeen inta ii sheeg maxaan ku yidhahdaa qabiilo dadka u dilay 5 qofooda laakiin waxaa ka fakaday cabdisaaq xirsi aadan oo ahaa majeerteen iyo shacni abuukar oo ahayd boorle oo ahayd ogaadeen labadaas way ka fakadeen ilaahay baa fakiyey markii xilligooda tooda ka dhinay laakiin la dilo laakiin waxaa maanta ii caddaysay sababta dilkaas ugu geysana waxay ahayd doon yaale dilkii lagu dilay sababteed ayuu ninkan u argoonayay marka ugu dambeyntii
تعسي يا ما هتعلن يعني هو كمان هتعلن واحد أنت تذكر صباح ديلات قبل جوجر رمتي وحاتاي رمتي كل يرن هذا كمان علينا سيد ولي بحسوس ترى أو شربت ترى رمتي نوع عديس مركا إن شاء الله بالواحد كديلات وقدمتي أكسوق جويلت aada u mahadsantahay Soomaali Wadani TV adiga iyo dhalinyarada kala shaqeysa horta marka ugu horeysay mar labaad iyo mar saddexaad diida cadde raggani rag walaala ay ahaayeen qofka dad ceesh isla cunteen oo aad meel walba isla soo marteen oo intaas sano isla soo shaqeynayseen haddana qof kooyta ah hadduu kula dhashay xitaa oo markaas asaga dhanba bilo kula joogay dhibaateeyo waa xanuunsanaysaa waa dareemaysaa xanuun fara badan oo waagaas aan ka soo qaadno wadankii ayaa muddo dheer nahay oo aan rag fara badan markay ugu soo dhacaan ragga aan la shaqayn jiray ugu soo dhacays markaan wasaaradda warfaafinta aan maqlaba raggaas waa ugu soo dhacaan dad asxaaba ahayn dad aad isugu dhawaa ahayn marka ehelkoodii waan u tacsiyey hadda ka hor intaan waddanka joogay haddana waan ku celinayaa haddaan noolahna waan ku celin doonaa cabdiqaadir cali iyo ciyaalkiisa xitaa waan ugu tagnay xaafadda hurwaa annagoo badan waan usoo tacsiyenay marka mahad madiina ugu tagnay marka ragga ciyaalkii ay ka tageen saacadahan waa weynaadeen waa rag nala eg ama naga soo daba dhow ayagana allaha dhowro mataqaanaa aabbahoodna allah u naxariista aabayaashood marka waa tacsiyeynayaa وصار نقضنا إن شاء الله عبسلها marka marqaatiga nool aan ahay haddii inta aan noolahay waxba liiga weydiiyo inta aan hadda aan sheegay marqaati an baan ka ahay waa sheegi doonaa waana sababta mataqaanaa raggaasi inaan waxa kale uga argudi karo ama aan mataqaanaa u garab istaagi karo waxa weeye in raggaasi wixii gaaray aan meel kasta ka sheego oo liigaga baahdo اوكي تاكي محد افرله تاكي محد ليبك تاكي عاو كدغي سنه محد ديله تاكي عاو سو افر حاصله لدن عروريستا ابا افر هوينا قبا ايا عاو ايو سن نبدغليه كجيفا عرورتي او ديلن اغوان ku barbaareen hooyooyin badan ayuu wuxuu galshay maxaa la yiraahdaa wuxuu galay maxaa la yiraahdaa asay u saare maxad caaw dhiileed markaas wallahi horta taakay waxaan dhihi lahaa waxay ahayd taakay laba mitra ku sugays qof kasta way dhimanaysaa kullu nafsun daaqatul mawt marka inuu ilaahay ka cabsado oo uu ka tooba keeno raggan mataqaanaa walaalihiisa oo asaga gacantiisa sababsaday markaas ama caadifad qabiil ha ku jirto ama yeenu ku jirin dembigaas wuu galay cabdiqaadir cali iidle waxaan ma dhihi karnaa xabad uu u waday nin la yidhaahdo cali baay allah yaraxmo oo ahaan jiray mataqaanaa nin barnaamijyada wakaaladda wararka soomaaliyeed faallooyinka soo qori jira ahaa oo uu watay ayuu baroobeen maagayay baroobada uu baroobeynayay cabdiqaadir ayay madaxa kaga dhacday shubka ku dhufto shubkii kasoo laabatay madaxa kaga dhacday cabdiqaadir waxaan ma dhihi karnaa waaba kama allah u naxariisto caruur waaweyn markaas cali baay niyo sokoraa ku dhacday odaygu uu dhintay cisbitaal difeero ku dhintay dadkii duugaan ku jira allah yaraxmo muddo kadib uu dhintay malakameedkiis waqtigiisa imaaday sokoraa ku kacday markuu asagana bararay allah yaraxmo uu dhintay marka asagana koonfur galbeed kasoo jeeda cali baay marka qorigaas isagaa loo watay laakiin cabdiqaadir ku baxay allah yaraxmo markuu cabdiqaadir baasha ku dhacday cabdiqaadir dhacayna wuu cararay sababta wuu ogaa cabdiqaadir inuu isku badbaadeen ma fahamtay mar allah markuu cabdiqaadir dhulka ku dhacay qorigii iska tuuray wuu cararay madaxtooyadu galay okay waxaan ka rabaa adiga marka sigad caawa ku dhageysana dhiigi hada laba eray ama mid kale aad u raacinayso maxaad u baaqi leedahay tiri in uu cafis weydiisto reerahaas iyo carruurtaas uu dhibaatada u geystay haddii diyo uu ka bixin karo iyo haddii uu magdhow ka bixin karo iyo haddii uu mataqaanaa dhihi karo meeshaad doontaan iyo maxkamadaad doontaan ila taga oo ayaga isu soo dhiibi karo isagoo aakhiradiisa ka baqaayo maanta uu nool yahay raggii waagaas 5 jir ahaa qaara waagaas 15 jir ahaa ilmahaas ay ka tageen raggaas qaara 8 jir ahaa saacadda waa 38 jir ama 40 jiro ama ka badan maanta waa la soo daba gaaray raggii waa rag garabkaaga ah way soo weynaadeen inaad intaad mataqaanaa raadisid aniga waa soo jeedin asiga aan u jeedinayo u nasteexinayo inuu raggaas intuu raadiyo la fariisto ayagoo dhan shantaas waabe carruurta ay ka tageen oo la fariisto una sheego qisada si u dhacday cafisna uu weydiisto
maadaama muddo ay kasoo wareegta laga yaabo inay cafiyaan si ay aqriis u wanaagsanaato intaasaan kula talin lahaa okay fiiri cabdisalaam wasaaradda warfaafinta ee hadda joogta wasiirka joogay caawa dadka shaqaalahaad ka mid ahayd dembiga wax lagu gala wasaaradda lafteeda dhexdeedu ahaa 30 sano ha ahaato dee doonto cid waxay ahaato dowladdu lafteeda arrintan inay kaalin ka qaadato oo arrintan maadaama wasaaradda dhexdeeda xarun dowladeed ee ka dhacay dad xasuuqan lagu dhex geystay ninkii geystana joogo dadka loo geystana ay weli nool dadka loo geystana eheladoodii qaraabadoodii joogaan shaqaale dowla ahaayeen so lafteed maxaad baaq u jeedileed maxaase ka dhileed dhanka wasaaradda warfaafinta ma horta wasaaradda warfaafinta hadda ragga wasiirka hadda meesha jooga macnaha nidaam wuxuu isaga joogaa sambool ah ama mataqaanaa siyaasadeedu ku joogaa shaqaalaha meesha joogana saa hadda rajaynayo ma ogi inay wax kale kusoo dirsameen ragga aan rajaynayo waa ragga haddeertaan sida u badan waa ragga u badnaa caasimadda saan rajaynayo wax hadda ay ka qaban karaanaba iska yar sababtoo ah wax ah haddii dowladda ma ogi xukuumadda xafiiskeeda cadaaladda oo kale justice ministerka oo kale in ninkani inta la raadiyo lasoo qabto la yiraahdo qisadiisa ka baafisay ay tiraahdo waryaa ka nool reerkaas tvda laga baafiyo la yiraahdo waryaa ka nool mahad caruurtiisii ya cabdiqaadir cali caruurtiisa ka nool ya mataqaanaa maxamed cali xaangi caruurtiisa ka nool ya mataqaanaa cabdisaaq xirsi xasan cabdisaaq muxuu ahaa cabdishii cali caruurtiisa ka nool ya mataqaanaa ka nool maxamed cali xaangi ya ka nool abuukar wariye caruurtiisii marka caruurtaas la helo xaasaskii haddii nool yihiin la helo kadib la yiraahdo okay ninkii waa kan bal la shira go-aan ka soo saara asaga iyo waalidkiisa iyo familkiisa oo kale kadibna markaas lagu heshiiyo soomaali sideeda dhaqan ay leedahay in la iscafiyo in mataqaan la kalama qaato marka aniga tala soo jeedin waxaan u samayn lahaa si adduunyadan qof joogaysa mala sheekh marka in uu cafis fursado aadan kaga mahadcelinaa sida soomaalinimada leh wadanida leh ee dhiiranaanta leh oo aad runtii aad qayb uga noqotay barnaamijkan maqaatiga nolol noqotay si cad aad ugu sheegtay asigan aad ugu nasteexaysay shacabka soomaalida dhacdadaas xanuunka badan ee aad goobjoog ka ahaydna aad noogu sharaxday waa kaga mahadcelinaa cabdisalaan oo jooga wariyaasha raadiyo muqdisho ka mid ah isla markaasna farsamo yaqaanada raadiyo muqdisho ka mid ah ru'aantiina barnaamij Soomaali Wadan TV barnaamijyo badan uga qayb qaatay laakiin maanta ay dhacday markii dhacdaan ay soo yeertay xiriir nagala soo sameeyay si uu arrintan wuxuu goobjoog ka ah oo ka ogaa oo shacabka Soomaaliyeed ula qaybsado dad baa waxay laga yaabaa inay waxyaabo si kale loo fahmaan laakiin wallahi sida ilaahay nagu ogyahay waxaan ugu shaqeynaa waxay tahay alla ka cabsi inaan qof aan dembi lahayn dib u abuurno qoysas dhaqan dad dhaqanin aan waxba naga galabsan aan eed u sameyno ilaahay baan ku dhaartay inaanan jirin soomaalinimo iyo alla ka cabsi dartiis ayaan barnaamijka u diyaarinay wax aan uga dan leenahna ma jirto cabdisalaan ugu dambeyntii adigu caawa adiga haddii maxkamad lagu soo istaajiyo kitaab jaamaca gacanta ma u geli kartaa in ninkaan runta ka lehay aad iyo aad weliba labada gacmood aan saarayaa in ninkan oo mataqaanaa war ninkani ma ahan keliya xitaa waxaan kuusoo sheeg ka dhaafay ninkani wuxuu horteena ku sameeyey wax caqliga geli kara maaha maxamed aadan xirsi terra nin la yirahdo allah yarxam hadda aan dhawintay oo ahaan jiray madaxa raadiyo muqdisho ahaan jiray agaasimaha raadiyo muqdisho ahaan jiray asagan intuu xafiiskiisa ugu imaaday ayuu yiri soo bax dibadda laga rabaa markaas waxaa la joognay nin la yirahdo abukar madoobe oo asagana hawiya abgaala cali waranta oday la yirahdo oo asagana abgaala oday la yirahdo maxamed faarax xalana dhaashan oo habargidar oo cayra iyo aniga uu rabay inuu inta soo wado horteena uu ku toogto marka odayaashaas ayaa dhaheen annagana indhaha naga duub nagu dar marka yuu toogtay ku cid meesha yuu toogtay naga heleen maxamed aadan xirsi terra nin dhii jiro oo xafiiska teerku hay oo asagana majarteena ayuu soo kaxaystay asagoo rabay inuu dilo marka annagaa soo raacnay oo jaranjarta kaga hor nimid aniga maxamed faarax xalana dhaashane nin la yiraahdo abukar madoobe oo asagana abgaala iyo oday la dhihi jiray cali waranto asagana abgaala iyo dhaashane oo ah nin habargeero cayra iyo aniga afartees naas ayaa haddana isku hareereen waxaan dhahnay annagana nagu dar marka wuxuu yidhi okay maadaama intii naas aad iga qabsateen waa idiin dhaaf teerra wuxuu rabay inuu horteena ku dilo ma fahamta marka teerra laftiisaaba teerra marka hadda waa nool yahay
soo badint ما عنده إغلام بدنت الله يرحمه iyaga ku teer marka aliftiisa riskigaas ka bibaaday oo martaas laftaas goobjoog ah فيسكا kuwan kale hadda aad بعض sheegayso abuukar iyo dhaashan iyo wax ma ku noolyihiin kuwaas aad sheegayso ما داشان ودنت مركي وضي كاس الله يرحمه على ورنت ودنتي أبو كرمدو موجن نولي عن كره okay boqolka bartamaha oo hadda jarmal ku dhaqan arrintan wax warba ka haya haddii wax laga warayso آديات ربي واجوي boqolka bartamaha waxaan rajeynaa insha allah boqolka bartamaha inay xiriir nagala soo sameeyo insha allah waa kumaas cabdisalaan aad iyo aad kaamil cid walba cid ka waraysa oo dhacdadan sidii cabdisalaan noo xusay cid alle ciddii ka waraysa dhacdadan goobjoog ka ahayd ee wax ka og waxaan rabnaa inaan insha allah nala soo wadaagto cid alle ciddii familka qoysaskii dadkaas la xasuuqayna kamidana waxaan jeclahay inay xiriir nala soo samayso haddii dani ka hayso inay markhaatiganooda wax ka weydiiyaan cabdisalaan axmed jimcaale oo ku dhaqan waddanka sweden waxay xiriirka ay doonayaan insha allah asiga u ogolaaday cid alle ciddii arrintii ama ha noqoto dacwo ama ha noqoto xiriir kale ee dan ka hayso inay wax ka ogaatana way nala soo xiriiri kartaa waxaan kaloo ka codsanaynaa dhammaan wasaaradda warfaafinta gaar ahaan shaqaalihii wasaaradda warfaafinta ee xilligaa shaqaynaya cid walba ka warhaysa dhacdadan goobjoog ka ahayd waa arrin naxtin badan shaqaale dowladeed dalku shaqaynayay dadku shaqaynayay in saas loo dilo waxay la mid yihiin kiisaska hadda dilka oo kale dhaca waddanka wayba ka sii xanuun badan yihiinba waxaan jeclaan lahayn raadkaas inaan dib loo u noqono oon helno dadkii ka sababtii iyo sidii ku dhacday waxaa waaya dadkii dembiilaha oo falkan geystay ayaa hadda nool waxaan jeclaan lahayn cidan ciddii arrintan danaynaysa ama ka waraysa inay nala soo xirto haddii aan abaada Soomaali Wadan TV haddii aad doonayso inaad nala soo xirto fadlan taleefanka shaashada xagga hoose ku qoran nagala soo wac ama page-keena waa si halkaas ku xiran adigoo mahadsan fariin qoraal nagu sameey aad iyo aad kaga mahadcelin cabdisalaan barnaamijkeena caawa saad nooga qayb qaadatay waa kaga mahadcelinaa waa barnaamij kale insha allah kugu cusumi doonaa waana sida sharafta leh soomaalinimada leh wadanida leh ood noogu qaadaan aad kaga mahadcelinaa adiga mudan adiga asxaabta kula shaqayso boqolkiiba boqol ayaan ku salaamaya boqolka bartamaha asaga igu salaam jimcaal yare ama cabdisalaan ku salaamaya ku dheh marka barnaamijkaasi waa barnaamij jirgalay lafteeda haddaa xasuusto wixii wariyaal ahaa oo xilligaas kula shaqaynayay ee wax nool ay jira haddaad baaq u jeedi kartaa ama dhacdadan xataa ka warhay haddaad xasuusto magacyada haddaad noo xusi karto si aan baraha bulshada uga helno ama u raadsano ama dad Soomaali noogu soo xiraan wallahi waxaa ka go'ay qadka laakiin waa soo haa cabdisalaan hay sheeg magaciisa dad hadda rag fara badan raggii hore horta meeli ku kala dambeeyaan qaarkood waxay joogaan Holland nin la yiraahdo Cabdi Cilmi Tawaad waa Cabdirasaaq Cabdulla Goore oo asagana Belgium aan ku dhowr jeer isku maqalnay rag fara badan waa nool yihiin qaarkood mataqaan geero kuma maqal inkastoo waqti la soo kaay dambeysay Cabdirasaaq Xasan waa la ii sheegay inuu meelahan joogo Scandinavia meel ka dhow yahay laakiin weli ma xiriirin insha Allah waan raadin doonaa laakiin Cabdirasaaq Sugulle ayaan ismaqalnay asaga waa ogay masaajid ku yaalo Finland Helsinki ayuu ka yahay imaam marka ragga noocaas oo kala oo dhan way la socdaan aadeen ula socdaan sheekada marka asaga waa inuu kiiskaasi mataqaana sida hore u sheegay intuu waalidiintaas iyo ciyaalkaas raadiyo hooyooyinkaas raadiyo uu cafis warsadaa waa naseexada ugu weyn aan la talinayo taladaas inuu qaato ayaa aad iyo aad ugu talinaa aad iyo aad ka maacina sida barnaamijka qayb u noqotay la ku ciseeyo sida sharafta badan Soomaalnimada iyo wadanidu waa waxa dalka ka ogtahay dhabad ugu shaqeeya waxaan ka saaco barnaamij ku soo gogeen waxaan mar labaad mar saddexaad ku wargelina cida la ciidii arrintan danaynaysa ama warbixin ka haysa ama wariyaashi kamid ah ama dad goobjoog ka ahaa ama dadka helida in aanu u sahli doono hadday doonaan in warbixin ay ka ogaadaan ay rabaan والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وهلكن وسومالي ودن تي في على برنامج وعي قرنتي ودريد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته